أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد maanta qodob aad Soomaaliya dhibaato uga haayo ayaan rabnaa insha Allah inaan kusoo qaadno oo ah cadaalad darro. Soomaaliya cadaalad darro ma ka jirtaa horta? Fikirku salaam walaalka Allah ku xafido. Soomaaliya maanta cadaalad darro ma ka jirtaa? Maanta waxaan rabnaa inuu markano groupkan uu noqdo groupka ugu dadka badan inuu noqdaan lagana qayb galo insha Allah. Ikra uu number 1 ka yahay walaalkay. cadaalad darro ma ka jirtaa? idinka idin weydiinaya insha Allah bidnaahi kariim. Yes, way ka jirtaa. waana tilmaami doonaa cadaalad darrada, waa tilmaami doonaa qabaa'ilada, waa tilmaami doonaa insha Allah bidnaahi kariim iyo sidee ku dhacday iyo cadaalad darro markay timaado alla maxaan ka filanaynaa. fiiriya, cadaalad darradii waxay ku geysay alla inaad markano aad ka fogaatid oo alla ku caroodo oo alla garbaashkiisa imtixaankiisa kugu socdo yawmul aakhirana naar ay ku dambayso. you see, cadaalad darrada waa shayga ugu xun adduun. qof wax walba waa u adkaysan kartaa. cudur hadduu kugu dhacdo waa kansar hadduu kugu dhaco waa u adkaysan kartaa. aabbahay hooyada haddii la dilo waa u adkaysan kartaa. ilmahaada haddii la dilo waa u adkaysan kartaa. laakiin marnaba cadaalad darro wallahi inaad u adkaysan karin. example aan kuu soo qaadayaa haddii ilaahay raali ka dhigo. anigii adigoo isla socono, anigii sheeca maarkana Cabdalla isla socono ayaan qof waxaan ku tufay candhuufan ku tufay si aqaldana ugu tufay. am sorry. ninka wuxuu dhahay candhuuf maxaa igu tuftay? aan marka hore ma wadanba. war ay dab daran tahay ku dhahay oo cadaan ay ahayd gaal ay ahayd maxaa ii sheegaysaa ani? warniyo gaalnimadeeda waxba ma kaa qasayaan luqadiisa ilaan kula hadlaya. ninkii aan feer ku qadqaaday wili haddana ninkii aan candhuufta ku tufay oo niyo maxaa igu tufanay dhahay oon i caynin waxkan igu samaynin. intaan qaadi lahaa warqad aan kaga tirtiri lahay raal ahaa oo aan dhihi lahay ayuu ninkii aniga haddana feer aan ku bilbilaabay. booliisaa meesha loo yeeray, booliiskii yimi. sheekh Cabdalla oo sheekh magaca sheekh wata xataa Soomaalina way u badan tahay cadaalad darrada. tusaalaan soo qaadanaa walaalkay, ilaahay jeclaada maasha Allah. booliiska markuu yimid waxa la dhahay bal yaa jooga meesha? ninkaana joogi. gaalkii wuxuu dhahaa markhaati ku qabsaday adiga. waa minimum waxaan ka hadlaa hal qofood cadaalad darran ka hadlaa. maxaa u maleynaa ummad dhan aad cadaalad darro ah ku samayso? maxaa u maleynaysaa? wal ciyaadu billah. cadaalad darradii waxay imaaday in Cabdalla la weydiiyay. gaalka uu dhaho ninkaana jooga, saddexdeena bisaa joogna. haya Cabdalla la weydiiyay sheeqeena oo yiraah gaalkan ninkaana gardaran, ninkaan candhuufta asaa ku tufi, ninkaan waa iskaga tufi ilaa ninka candhuufta ku taalo asina afkii ugu tufo iska tirtiri. warniyo maxaa dhaca? feero ku bilaabay. ninka Soomaaliga ayuu u eexday, been ugu eexday iyo cadaalad darro ugu eexday. ninkii booliiska ahay, ninka cadaanka la waday, waa la garbaashay, waa la xiray. waxa la ka bax hadii kale meesha gurigaada aad alla adab daran tahay. mar dambe ninka agtiis ma lagu arki karo. ninkaas anigu wuu iloobi karaa dambiga aan ka galay, candhuuftaan ku dhuftay, feerkaan ku dhuftay, laakiin weligiis ma iloobayo ninka markhaati beenaalka aan suubiyey oo dulmiga suubiyey. markhaati beenaalna waa ogtihiin ama laa yadkhulul janna waay. laa yadkhulul janna inta uu yiri oo dhan ayay Soomaali ku sifaysan tahay maanta. laa yadkhulul janna inta uu yiri oo dhan Ilaahay ku sifay Soomaaliya. namiim laa yadkhulul janna waay. munaafiq laa yadkhulul janna waay. maarkano magaciis ma laa yadkhulul janna waay. qof la liida laa yadkhulul janna waay. reer hebel anoo aha ka sare laa yadkhulul janna waay. point 5 ata ani you are nothing laa yadkhulul janna waay. shaqada aad qaybinaysa laa yadkhulul janna waay. qofka cadaalad darro ku sameeyay been loo hadaa tahay laa yadkhulul janna waay. been iska badaabtaas waa caadaysan. ma beenana sheegin siyaasiyiinteena ma been sheegin ilaahay idinku dhaari. annaga miyaan been sheegin? maanta waxaan ka hadlaynaa cadaalad darradan ka hadlaynaa. ma la soo koobi kara, laakiin maalinta koowaad cadaalad darradan ka hadlaynaa, maalin labaadaan ku daraynaa, maalin saddexdaan ku daraynaa. waxaan u soo qaatay wax kale maaha. cadaalad darrada ka jirta maanta Facebook ana ka arkaysiin, waxaa ka dhigay social media ka arkaysiin, YouTube-ka. cadaalad darro qofku wuxuusan ahayn ama uusan sax ahayn ayuu halkan soo gelinaya. cadaalad darrada waa naftarkeeda waa dulmi waay.
sheekh cabdalla oo maanta gurigiisa joogaan waxaan leeyahay wuu dhoofay meeshaasuu aaday daduu maarkanoo garbaasha wuxuu qaatay geedkii cirkii dhulkuu soo dumina waa kaas waa dulmi waayo intee ka keenaane dulmiga soomaaliya jiro maanta ma la soo koobi karo mana rabo maanta inaan maarkano maanta aan kusoo koobno leh laakiin dulmiga kala waaweyn dulmiga waaweynaan rabnaa inaan a e b e c e d e e waay e f e g e h waay wilaacan dulmiga soomaaliya yaalo laakiin maxaan samayn karnaa waa kala horumarin karnaa dulmiga ugu weyn soomaaliya haysto oo alla noogu naxariisanin oo alla nagu garbaashaayo oo weli caadan alla naxariistiisi weli ayna naga dhammaanin oo caafimaad iyo cilmi iyo aqoon iyo maarkano nolol iyo maarkano whatever aan waysana haddana kor noo soo qaaday wax walba oo maanta aan ku sugannahay na raalli uusan ka ahayn haddana saas ay tahay welina loo leeyay oo welina muslimnimadiina kusoo noqdana leeyahay war ani ii soo noqda anagaa ilaahaygiin ah war anigaa ay dambayn doontaan war aniga keligaa malikul mulk maalinka aan dhihi doono war maalintaas hashalaynin war shalayta ma horeysa maarkano way dambeysaya hore hashalaynina ayaan diidannahay maanta war qof dhan oo bini aadan oo islaam ah oo ilaaha idinku dhaari oo islaam ah ayaa maanta wuxuu sameynayaa wax cadaalad darre uu sameynayaa maxaa ka mid ah maanta cadaalad darrada ugu horeysa 60 sano ka badan iyo daaqiliyadii waxaa wax noqon karaa la dhahay laba beel bis daarood iyo hawiya noqon karaa la dhahay waa tilmaamayna anaga shakhsi ma aha daarood iyo hawiya waa qabaa'il waay labadaas qabiil bisa madaxweyne noqon karaa la prime minister waa dulmiga Soomaaliya hadeertaan ee ku jira oo ku go'ayso oo dhibaatada u jirto waay see ku dhacday in la dhaho Cabdallah he is nothing Cabdallah waxba ma noqon karo because reer hebel maarkano magaciisa maxaa jaamac kaliya wax noqon karo Saciid wax ma noqon karo Mawlida wax noqon karo reerkaas hebel wax ma noqon karaan reer hebel kaliya wax noqon karo waa dulmi waay aan maarkano magaciisa maxaan far lagu soo gabanan wallahi billahi ta'ala dulmigaas hadaan raali ka noqonana wallahi ilaahi wuu na cadaabaya raalina waa ka nahay maanta waxaan leenahay reer hebel bis aan noqon karo kulligeen yeena ku jirin qof qabiilkiisa inuu madaxweynaha noqdo iyo inuu ku jirin bal ii sheega dad badan oo madaxweynaha soo sharxi lahaay oo maanta Soomaaliya wax ka qaban karo oo islaam ah oo nooga kulul oo nooga amaarkan magaciisa maanta alxamdulillah nooga dhibaato badan laga yaabo inuu jiro haddana waxa leeyahay reer hebel aad madaxweynaha soo sharxi kartid waa dulmi aan dulmi oo dulmi waay ilaahay intuu ku qoray meesha reer hebel kaliya wax noqon karta reer hebel dhanna wax ma noqon karaa intuu ku qoray nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam markuu soo saaray oo raalli asaga ka noqday raalli allah ka noqday anagana raalli aan ka nahay ayaa yahuud waxay dhaheen ninka carab maxaa looga soo saaray maaha inay maarkano diidiin diinta iyo ilaahay keena day no markaas nabiyaasha badankooda maarkano Israa'iil maarkano yahuud ku soo saari jiray si carab ugu soo bixi karaa ka waran dulmi intaas la ka waran Allah ma adiga wax u akhrinaysaa maya Allah wax u akhriyaa wax ma loo akhriyo warsiya ku dhacday ilaahay idinku dhaari 60 sano kadib in la dhax reer hebel kaliya leh mee qofada soo sharcay leeyahay war maalintaada waxaan iska daayay leh dulmiga haddana wuxuu sii kordhay haddana reer hebelkiya haddana laf hebel iyo laf hebel haddana laf hebel iyo laf hebel aniga Cabdallah oo maarkano magaciisa ma kala hooye labada baxno loo kala saaraa aniga Cabdallah isku aabaanahay labadeena hooyo laakiin kala duwan ninka hooyadiis maarkano tutorka hooyadiis saas way ma noqon karaa leh Cabdallah hooyadiis laan dheer ay tahay والله قفوض إلهي هل أبك وذا أبو روى ما أنت دولمي عن كهذلين الصومالي برنامج كفي عنه ولا كهذل لها مجرى سديت قفوض شير قريس ما أنت حرمنا إن شاء الله بدين لك إننا قف البقى كجر إنه جايه ماشي وقدم بيس إنه جايه أنك وذا هذا لنا أنك وذا حسن أفرق قفوض هذا لنا مرة وقف البقى حكمة هذا إيرار إيه ما أركنه وح عاقب تدينا كهذا شنربنا ما أنت الرئيس حمر إنه سوبوده سومالي ما أركنه بريسنتا كانوا قلنا ما يأذي 0.5 فاتها اللي درب حلي هذيك ما أركنه مقعش ما هذيك رهر كاغو مقيهين اللي سومالي لنا ما أركنه ما أركنه مقر اللي رحبين محلي هذيك ما برلمانك بس أسكال هذا اللي دارود يهوية وحلي مدحوين كوكين وحين اللي سلسوا دا في الله دارود هذه مدحوين من غنكر تهوية كلي هوية هتسكت قالوا هاي ظلمي هو في الجلمة سيد ظلمي هو عوي سيد بسوشو قالوا في الجلمة هوية سيكل بيحدونه إن شاء الله هذا مرة وين ديتيل أوكل مرة
وريا نوقبي يا نوقبي حديثك ما يكون على نبي محمد عليه الصلاة والسلام ما كتبك الله يكون على رير هبل رير هبل رير هبل رير هبل رير هبل وإحنا نقول رير هبل وإحنا نقول ورسيدي الله المال نقول قارسينيا سيدين الله ما أركنا مقعسم نقول دفاعيا سيدي الله توفيق نوافجنيا سيدي الله المهن وكبت بادنيا سيدي ودن كان الله وكبت بادنيا سيدي أدنك سيقولوا ليهن وقولنا لانينا هادي عن دولمي أنك دحدين اسكودنا هادام بين ما أركنا مقعسم هو أنك أنكو دقمين لبعض سنة على 0.5 عدوا البحيلة ده 0.5 أنك سور جدنا they are liars all we are liars إن يروا إلهي كبقي سموير بين السدن يكو حل ما أنا كدمن سد يكو حل ما لو قدر سد يكو حل ما لو قدر أول يبدل منايا 0.5 كيس كده سيدا كله يبدل منايا مدحوين من نقون كرتي ولا ده هيبو سد يكو حل ما لو قدر كرنا ستحكون قادنا مليون توجنم كبعض كوربشن كبعض إذا قيانو كبعض يقف جيب كيس وقشنا وريا وح شيء نودن والله الله قلوبتين وأقرسنا لكن أكل lie to you أنا بين وكو شيء كرامانته مش أنا زوفريستو حرب الله لكن بين وكو شيء كره الله كان هرين معي وح هوس كجرو على وش هذا برمبري يكود كذا قضح بلاي جن إنه كجرته الله وأوجيه عزيزك وأوجيه ما أنت برنامج كأشياء برنامج كفي عن مجرى لحق فوضى ما أنت أشير كرناه هيسا كورم إلهي يقول أنا مش العكو مقاطع وحكى لكم ما الله كان محاوع يقولي الله بحورها لك إياه أنا جو استوديو الله ما أركنه الله استوديو أيا إذي ماذا والله هنا وحبي إذين كربين وإحنا ميجي كرتين وإحنا ميجي كرتين وإحنا ميجي كرتين وإحنا ميجي كرتين لكن حنك حمها كيف مشرح مدحوينه إلا ده هذه الرهبة لا توحمل نقون كرتين سومالي هذه الرهبة كسكتها وحمل نقون كرتين ولا ريالو دول مقاس انتي لك أيوم ما أركنه مقعيس محوها أيام كسعون كرنا لحظة سنة أيام دول مكسعوني قبيلك إيشك رير هبلك انتو نجي مانتا dadkii ay matalayeen intuu geey iska daa inta kala hal dhibaatay dadkii uu matalay naftirkeeda halkee maanta ka joognaa maanta successful intee la egyihiin labadaas qabiil ay joogaan reality marka laga hadlayo baarlamaanka intuu ka joogaa legitimate sharciga dhana loo dhiibay they are not happy sharciga adaaba haysatide sharciga ma diyaarisido oo soo bandhigto oo tiraahid ma jirto one man one vote يديدن لبضعس قبيلة يديدن I'm telling you right now هوي دارود يديدن one man one vote والله أيها يديدن دول ميجا الله ما أركنه ما أنت الصومالي كسرت لبضعس قبيلة كسرتها لبضعس قبيلة أمتك هرتاجن أنا ما شعبك كم هذا يعني قبيل أهان عن قبضة سياسيين تنصامرت إكوا هاد جو إكوا هاد صعدوا ور الله كبقى أمتها أون حريصنا الله كبقى أمتها هيسون حريستان الله كبقى إنا ما أركنوا عدالة الرد نسكدافنو الله أن كبقنا الله ما أكون أودوان عدالة الرد إنا نسكدافنو ورقفك يقولون والله بالله طلع عدالة الرد الله وحسر رالك هن ما تهتر أن ديدو والله أنا قال قوليستي الله وحسر رالك هن هدو ديد عبد الله أسيق قوليستي كل جن هدان ديدنا والله هو قوليسني والله قفك قبيل رالك النقضة أو والله دول من رالك النقضة يس إلا دول ما يمرنا دارات والله إننا نربين دهوي إن للظلم مربنا لكن إحنا حق ولا هني نقاطان ومتى أيكم مادان ومتى هورستاجان أي كلي وذفرست أي هشين واي أي ومتى هورستاجنا أي كلي وإحنا نقنقر أي كلي ومسق يبان حران أي كجرا سياسيين تودا والله بالله طلع الله نوكر باشا النجي الشعب كه أو تاجرنا الله ونكر باشا عذرنا نو إيمانه بل قس إلى كورة لبضع قبيل قفا إهن ما واحد نقد الصومالي كان نقد اللحظة انكسر أنتي كنت مبين عدالة الدرد إنا أسكت عفنوا نفس الداد إنا قبل هذا الدواء حاسك الماضي إنا قبل هذا عدالة الدرد درسك إنا حشميس الدواء درسكو الله إنه سو يستجنا حق إنه قليهن درسك حق إنه قليهن محملين الصومالي إنه حق يقول هذا كور قف برير لو سو يستجي كورا عدالة الدرد أصلا كل وحش شعب صومالي أو جرو على هوية هالشيء كنا سو أيها دوش بريكاس أو كراي انتين جينيسا وير انتين جينيسا مركز قفل بو حقو سنة أجر أول بأجر ملهن عدالة درها كنت ماذي مركز وحي مركز لغا قوستو كل الدم بيجينو نن أنيجي يا عبد الله يا إبر بعد بني آدم أنا هدم واقلنا أيا أديك الوقوشما انتي جينيسا الله عذابتي سنتيك كليسا I know تتبدن إن ما أنت سووا عيان هذا هورني موالنت هذه هوي ما أركنه لاندير أتاي ما أركنه لاندير أو دارو أتاي وردت كسمة وحلقة شيء
والله وبالله وتالله إلا أن رنت اسكو شيخنا نبي محمد مركو يمن نستيح هذا الدون كاتم عليه الصلاة والسلام نستيح وعدالة أتمي أنك بحاربنا هويها وعقب سنة إنه عدالة فلو حتى دارود قبنا إنه عدالة فلو وحق إليه وين قبنا كران لكن حديدنا exclusive inclusive everything أيق النقدان والله بالله حرام واي ما أنا أقولنا يعني أنتين ما أقولنا سين أوفي في عن أنت حنا الله سوهنونيا أنت قبيلك جرجرتي الله سوهنونيا انت هنقري آدي او بينك شيء الله سو هنوني قف كان هنون ugu talagalin Allah naga qabto no more afarta sano dambe soo socoto insha Allah bidin laakiin madaxweynaha dambe iimaanay qofku rab ha noqdo ilaahay waxaan ka rajeynaynaa mid one man one vote ko aan ka rajeen one man one vote ka hadana labadooda ay daaminad gareynayaan ay tuugnimo ay ku daaminad gareynayaan siyaasiyiintood ay dhaqaale ku bixinayaan maanta isha corruption yaa kan labadaas qabiila keento I'm telling you right now قف رح حمر أو صباح ولا عقب بحنا مارتن متعبين نقناها عليه وحي قف جرير ولا عقب بحنا أو سنة نقناها قف مديبان ولا عقب بحنا أنا هلاقي ترتاح مارتن Have you ever wax corruption oo dhan labadaas qabiila keenan labadaas qabiil xarabna siyaasiyiintooda aan ka hadlaya shacabkooda masaakiinta oo la dulmay oo dulmiga markano dadkaas ay gasteen ayagan wax ku soo gaareen waxa waa u nasteexeenaya ilaahina waa ugu magan galayna ilaahay oo dadkaas anaga shaqo ku maleyn mana kula han doono ilaahay oo anagana hanoo cadaabin cuduradan iyo muxuu imaanaya muxuu muqdisho ugu badan yahay wax allaal wixii tuug ummadda inay rafaadiyaan oo ayaga danahooda ka shaqeeyaan oo siyaasiyiin ayaga kaliya la nafsadooda inay ka shaqeeyaan inuu kursigaas kale oo xaaran u qaato inuu kursigaas kale oo markano wadamo ka shishay u shaqeeyo inuu kursigaas tago Allah oo markano oo ka dheeraado kaliya bis laga shaqeeyaan taas way xamar u gubanaysaa taas way xamar u gubanaysaa maanta Somaliland fiir little thing waxyara idin soo xasuusina maanta la luushka ma jiro yaas wasaaradaha iyo waxaasi uu kullu wala dhacohaya in saarirka laakiin wama manfooday aadeen been iyo run waxay noqotay laakiin dad lacag la siiyo ani ifood la dhahay la kala waxayna wili ma arkin anaga warsay ku dhacday in oday dhaqameed maanta la siiyo laandheeriyaasha ay sheegaysan aawe laandheeriyaasha waxay u gudbiyeen laangaabyaasha ay sheegayaan laangaab ma jiree laangaab waxa ay qofka alla ka dheeraada kaasa laangaab الله قفكو عذابيا لانقابه الله قفكو آخري الدنيا عذابيا لانقابه لانقابه حي قفك الله إن أكرمكم عند الله سيكو دعكرتا إلهي إذي كود أريا إنا ما أركنهم باشهوي أي أسيقود بيان إلا لوش لبحيو إما سامات مشرحين أو صومالي فيدرالك بل إيه شيء قفها لا لوش بحين أو ديار أمهن أنا ليسوا على ببغلو مرة ليسوا على ده 3 مليون 5 مليون هذا دعنا تطار وعلمه يا قلبي وحلقك لي خف لا لوش بحين إنه سمال كركرن الله إنه لا لوش إله إنه بحي سنتنات ورن وإلوني الله إنه غفور رحيم سنتنات بحي وإلوني إنه عزيزك أو ماركن إن الله يرزق ما يشاء بغير حساب إنه يروى إلوني إنك استو علماء كجر ترى له هذا ووحياه عجيب كواي والإله إذا كدر إما سامانت جزيرة حتى أنت جوكته إما سال عقب هذا إمسا مانتا قاجو دمانيسا إمسا أكسجين الآن هايسا إمسا قفل بوحوليه لعق ماركنو مقعيسما لعقتان ماي مشارح نمدا أو هايستا ورا هذيك مشارح نومتي داناقا حتى بالعق نقو بحينيسد إنام كدورنا ورشخصي دادا إي سومال نمدا دي إسلام نمدا دي إيهل نمدا دي إي أقونتا دي جرادكا دي هرمركا أن ربنا أنك تاسن كوكو دورنينا تاسن كوكو ديدينا حتى دان إيهن قفكو الله وقلبان ماركنو ميشا تغايو ورمحاي دي كسيه فيري الله أنكو كتيران أو كل جل لا لوش بحنينا أيوه هذا مد كوسي ساريا أو كله كوي بريتو هل مالين ما أركلو قفي اللغة وكمان تمارتين دولة جورس مسوماسو قبلو بحيو ور إلهي هلا بقى ور عزيزك هلا بقى ور والله بالله وطلله وادب تونية دب كم وبحكرنا ور عدالة إن قصون قنا وبحكرنا You are nothing تطلع دهاي حتى هير وحن قارن عدالة درده قبر أديك كا قرحان رير أديك كافي عن رير كاتو كشبدن رير الله كاقدر أما أركنو كاقدو إلا لبدرسات هنا أو أديك بو كجرت أو قمرة عبيسد أو توق أيها قبر هذا وحي كشر بدنتها كاس مساكينكو الله ودوادي كشر بدنتها هل كيكو قرنتها إيشيك ميشي كرتين رير هبل ميشي كرتين والله بالله وتالله وإلهي ونقوقينيا والله معجزتي سويلنا ما سو قارن والله بالله إلهي نحريست وين واي ما أنت قسود أذيك ما أنت هذا ما أنت ما قعيش محاها one little thing أنكو وسمي أو سجينك يا هسه تمن قرا
haweenka maxaa loo dhahay maarkano haddii nimanka ee furiinkooda ayaga ahaan lahay 10 maray maalinta furi lahaayeen xikmad ku jirto waay ninka ragga inuu adkaysto xoogaa yar samro isceliyo darteed waa mahna gabdhaha inaan ka fiican laakiin xikmad alla waa maanta waxaan ka hadlaynaa cadaalad darrada hawiye idaaroodaan ka hadlaynaa war hawiye idaarood waxaan rabnaa qof Soomaali oo islaam iyo ehel waa idinku jira qofkaas waxaan rabnaa inaa xalaasha kusoo doorataan waxaan rabnaa inaa ilaahay ka baqdaan waxaan rabnaa inaad maarkano magaciisa muxuu ahaa taageertaan qofka fiican waxaan rabnaa inaan laaluush la bixinin madaxweyne aan laaluush bixinin waxaan rabnaa baarlamaan aan laaluush bixinin waxaan rabnaa oday dhaqameed laaluush qaadanayn ilaahay oday dhaqameed ha baabi'iyo kuwa laaluushka qaadan Allah ha baabi'iyo kuwa ma arkino ummadda hor istaagan Allah baabiye kuwa alla ka dheeraad Allah baabiye kuwa iimaanka ka taga Allah baabiye kuwa fiican oo masaakiinta ah kuwaas Allah ma arkino say ku dhacday in dad dhan diyaarad lagu qaad kaali isoo doorta la dhahay naftirkeed war cadaalad darro Soomaaliya ka taala adduunka qof walba statekiisa Mareykanka qof walba statekiisa madaxweynaha uu tagaa oo leeyahay ka warrama markaas aan leeyahay may Biden aan dooran may waxaan dooran waxa u badnay ma arkino magaciisa muxuu ahaa waxa u badnay ninka Trump u badnay fiiri transparency qofkii la weydiina gudkaas arkano waa lagu ridaa online meesha aad guriga joogtid oo COVID-19 u jira ka garidi kartaa cadaalad darrada ma ayaga ha mise gaal waa ayaga who is a gaal kan alla ka furto oo beenta sheegaya xaaranta ku socdo kaasa gaal ah muslimada garaada la qaadana degree la qaadana maaha qof markuu dhinto maanta Sheekh Abdullah ilaahay uma keen haduu dhinto alle war shiiqeena dhintay ama PhD geena dhintay ama doctorkeena dhintay ama professorkeena dhintay engineer hebra dhintay Allah muslim hebra dhintay wiligiin ma maqashaan muslimka title maaha was something you believe 100% in your heart ku weyn way Allah haduu san heartigaada ku weyneen look at this maanta 4 qofood 3 qofood hadda ma arkano oo sameysay war waxaan ka hadlayno wax fiican oo lis farmiya ilaahay ku dhaariyo maanta dadna 20 kun 60 kun oo soo galayso war miyaadan islaam ahayn miyaan intaan aan istaahilin ina isgaarsiin war maanta barnaamij fiican inta ka socda aan la dhihin mise kulligiin wax naqsantiin wixii daarood iyo hawiisay wax naqsantiin kuwa kalena wax naqsiin naftirkooda in ayaga xaqooda kor loo soo qaado dadka isla sima mar raban miya hal qof hadda maanta kor ku jiro ilaahay idin ku dhaariyo ka waran zoom hataa sameyn lahaa 250 aan maanta zoom karaa zoom kaliya la look at this war ilaahay ka baqa wax wanaagsan aan taageerno war ilaahay ka baqa wax wanaagsan aan soo dhaweeyno waxa ilaahay idinku dhaw wallahi ahwiin aan nacbanan oo maarkano daarood nacbanan oo Soomaali kala jecleen laakiin dulmiga wuxuu u badan labadaas qabiil u badan 60 sano ayaga soo hogaaminay war ilaahay inaan ka baqno war kana hawiyaha oo fiican oo islaamka oo xishoonay oo dhaqaalaha ku bixinin laaluush bixinin oo kartidiisa iyo alla maarkano magaciisa muxuu rumaysan oo adigana wax ku qabana ummadana ku simay kaas doorta kan daaroodka oo sidaas isla mid ah sameynay oo wanaagsan doorta maanta musharaxiinta yaa maanta hawiye kaliya faraha looga qaaday hay ilaahay ku cadaalad darro Soomaa daaroodka iyo hawiyaha naftirkooda is cadaalad darro hadartaan hadda waxay noqonaysaa markaan anigana bariya ah adigana bariya tahay Soomaali dhan waa u dhamaatay marka war waxaas waa inaan istaajinaa wana mambood yaa diidan ii sheeg maxamed cabdullaahi farmaajo 4 sano lugaha ku dhigana ii sheega marra xamra ku dhigana majareera ku dhigana marra xaweyna ku dhuma cid kale ku dhiganeed labadaas qolo ku dhiganay labadaas qolo waa labada qolo wax diiday siyaasiyiintooda way xashada aan iska daayno naceebka aan iska daayno macna darrada maanta hawiyaad wax laga sheegay qof iga xiga male adigana qof ka xiga male kulligeena wada Soomaaliyaana cadaalad darrada weyn dhibaysaa war meesha aan gaarna cadaalad darrada keentay ma iska saxnaan oo alla mugu dhawaana oo casiiska mugu dhawaana oo casiiska maarkano sharaftii mudnaanta oo noo yeelay ma soo cishana shalay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ugu taariikh dheer oo ugu horeeyay waxa qabiil iyo hebelo no wuu yimid barbaru ka soo tagay markaas uu wadankayga ma adiga cushuuraysa aniga aad dagaalayno taa wana kaas uu ku liibaanay xornimaan ku helnay shaxasan barsan maanta qabiil mu aha 16 kun ciidan uu watay qabiilkiis kaliya ma ahayn Soomaali dhan ay ahayn هي باش كل سنتنتي باش وعدان باش وذلان باش ما أركلوا مقعوسهم بيمال كل سومال ولا سوهل كمين هل كن كي هلا كل سوكل وحسن مثلا هل كن كي تلياني كان كلا قيبية أو ده لبدا ريران صوت وده حجار صوت هنا حتى الدرجة كجت مركي عبد القاسر أو قبصة أيام مال ماشان كولومبوس هاي جوجنا مركز برنامج ألبوحي عبد القاسر مركز وحلقة هلا وده رقميات يدي يصير سومال سكوسون نقد يهمك يا لقى هلا
markaasaa meesha maarkano magaciisa soomaalida hore oo wax noqotay wasiiradii generaaladii maarkano magaciisa muxuu ahaa safiiradii dadki wax noqdeen oo dhan ayaa ugu badan meesha oo wax joogo bas markaasaa waxaa leeyahay garaad hebel hadlay islaan hebel hadlay ogaas hebel hadlay warab iris markaasaa la hadda xayisiinta kadib BBC da ahayd xayisiinta kadib waxaa hadlaya malaaq hebel hadlaya la xayisiintii la aaday نو ملاقنا وحوها فير إله كوري والعيف نم وفيريا ونيا ملاقم حوها عادي حتى معها والعيف نم هوصلوا دقايا وملاقم من حوها أعوذ بالله مركزا أنا سيجي ذا فرت لك صوب ما تترك ملاقي ها الله ورياه ملاق باته ها عنده ملاقة عنده مركز إسلام مركز حيز مركز دمت أنا ملاق هذا إلهي وحن كرجينيا إنا إلهي أنقنا أو سومالي مذوذ وعدالة الله هذا إلهي أنكبقنا أنسننا تاسع مكلها وري هلسك ده في قريقان هلسك مارسك ده في معارضك ورمد أنقنا سومالي مذ هلسوعي no سومالي ما أنت وكلا تكتواه that's what he said كبر automatically because ملاق محوي هواي garaad uu dhageystay islaan uu dhageystay ogaas uu dhageystay any other nabadoon uu dhageystay malaaq uu yisa ninkaas waxun mu ku hadlay wax sharaf leh ku hadlay Soomaalida soo noqota anoo malaaqooda waxa matalaya uu ka wada Soomaali oo dhan malaaqooda matalaya ka waran la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam maanta maalin nooga xuntahay male ma isdaba qabana caanadaat waa la daba qabtaa allahay سيدان سوت بقبنا هوي دارود مركان شيغايا ما أها إنا نعبناه والله إنا نعبنا من نعبنا كده حتى نعبناه عند عدالة مكهلنا عدالة معها قف دن غير دن عدالة معها شخص لك وانا عكرتا أو منافق أو إلهي كبقينا أو ما أركنه ما أنت للوش بحنايا أو توق أو ما أنت ودن كان سوقتنا ما أنت إلهي إذا كنت أري سومالي هالكي جوكتا ما أنت إثيوبي إنك لقى قيبسه أو قبيل نو قيبسه قبيل هبل يا وي لبدأس قبيلة إنه فريستان واحد استستورك قرن رأيك سو قرن أي كان ديدن إن لصحه أي كان ديدن وأنا أركضنتين والله بالله إلا لبدأس قبيل إلهي سهنون سياسيين هنونسن إلهي أوكانه والله بالله طلع سومال أنت سكجريسا يكبدني كجريسا ولي هذا حنون ما هاي حنون يا إلهي هاي يجر إله نقول كواسو إنه إيمانه هدان إسبدلن dhalinyarada islaameed way baabeen intee meesha lagu baabay sheeg intee lagu baabay muqdisho waa wax lagu baabay yaa baabiinay dadkooda baabay siyaasiyiintooda baabiinay yaa way wax qaraxa hadartan fiir entertainment lagu sameeyay ka waran adduunka inay fariisteen haye waxay dhaheen maxay dhaheen adduunka inay fariisteen waxay dhaheen magaciisu muxuu ahaa waxay dhaheen saddex qofood aan waxaan saarnay session aan saarnay oo aan ku darnay markano terrorist aan ku darnay waraadi terrorist maxaan ugu daraysaa anaga hana waalin anaga session abi saartay ma kala dagaalami karibe soddon kun ciidan ay keento oo meeshan markano farmaajo eridiisi xalana jooga ay keento maxay sheegaysaa anaga entertainment lagu soo bilna dadka cileen oo tutoore ma maqashay saddex qofood wax lagu dar argagixisa dhan ma banihin bi Soomaaliya afarta aan dhagahan ka raaci karnaa who create dod yaa create garay yaa loo soo dhiibay daarood iyo hawiya loo soo dhiibay daarood iyo hawiya loo soo dhiibay I'm telling you right now Soomaaliya waxba uma dhimin labadaas qabiil qof aan ahayn siyaasigooda ma aha shacabka kama hadlay anaga xasha lillah aad ay u nasabsan yihiin Soomaalida kale la mid yihiin boqolkiiba nasab waa boqolkiiba la cadan geesinimo iyo karti kale iyo Soomaalinimo ayaga loogu imaana labadaas qabiil laakiin siyaasiga ugu xun ay dawladaha Itoobiya iyo Kenya iyo Carabta ay maalgelinayaan waa mid shakhsi aan lahayn oo magacaas aanan qaadan karin ayaa la create gareena maal ilaahay kan سيكون عذاب oh my goodness waxaan ugu dheeraana wax kale maaha wallahi billahi oo meesha nagala jiro hadaanan fahmin annagoo aqal leh annaga loo manihin oo geel manihin oo maroodi manihin oo libaax manihin oo dawac manihin oo dooro manihin oo digaag manihin waxaan nahay male annaga human being ilaahay naga dhiga aqliga ilaahay nasi taas waa ilaahay noo cadaaba jannada noo gelina ومت dhalinyarada dhina dhamaad markaas anagoo hawiye anagoo daarood anagoo hebel war yaa maxaa ka see war anaga hadhan hal xabaanahay wallahi qof naga sareemal ilaahay santanadu u bixiya si sharaf leh mudnaan leh oo xaq oo cadaalad aan ku tagno
kan raxweyn ha isoo doorto kan maarkano dirka ha isoo doorto kan maarkano magaciis maxaaha oo 0.5 lagu tilmaamo ilaahay kama dhigane ha isoo doorto hawiyaha idaaroodka ha yimaadaan sharaf iyo mudnaada noo tahay labadaas xataa hadday imaanayaan sharaf iyo mudnaan waxaa mid alla ka baqanaya alla ka xishoonaya oo ummadda uu matalaya maanta u naxaya xamar maxaa ilaa hadda uu imaan la'dahay cabdiqaasin ha qabsaday maxay ku dambeysay waxaa qabsaday sheekh shariif hawiye mahamiya xasan sheekh hawiye mahamiya xamar maxaa ka jiro إيشك حمل محلوق أنسحين وين ماركلهم مقعسون يا هرستاجن منو شاجن وأنا الهرتاجن يا هوية دارنا واحد ما يصير الدنك هذيك صور جنات المان واسكعلنا الدنك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون والله هذا وحمها والله oh my goodness عبد الله سوقبنا ضيحة سوقبنا هدر dhalinyarada aad iyo aad u dhibaataysan Soomaali ugu dhibaataysan oo beenta loo sheegay reer hebel waxaan rabnaa insha Allah fiirsay u qurxan yihiin ma quruxdan iyo qurux ka sii fiican iyo cadaalad yahan lahayn ma kan ugu xageeyo oo ciisaha ee Soomaaliland iyo Soomaaliya haday midowdo ay warayba waxa ka dhinna Ilaahay dhameystira oo all the way up markano magaciisa maxaa ama Puntland meesha xaq ugu xageeysa hadda Soomaaliland ma ku jirto ay leedahay hadaa u cadaalad fashid Ilaahan ku dhaari ka warma maxaa noo imaanay wanaag waxaan ahayn ma noo imaanay war anaga siyaad bar waqtigiisa noo leen istaag muqdisho 2:30 in the morning all African games ka anaga ka soo lugeene aan Madiina lugta ku imaanay oo waaga noogu bariyin iskool Djibouti anaga mareyno anaga cidna ka baqaynin oo xataa qashar aan ka baqaynin markaas qof walba wuxuu leeyahay in markano kaligiis taliye war kaliga talimeena kulligiin taliye oo qaldan meesha ka socoto waxaan soo marnay wax fiican aan soo marnay ma been ba wixii fiicnaa in wax fiican lagu bedelay ahayd in la burburiyo qofa baxay cadowga adduunka Soomaaliya wiligeedna ay lahaan doonto hadaan iska celinin Ethiopia waa markaas Ethiopia in loo tago hub in la soo qataa lagu baabiye dada ilaa hadda sharaf u mooday oo dhahay aniga reerka anaa baabiye wadanka anaa baabiye maxay sheegaysaa wadanka anaa baabiye maxaa lahaa see wadanku baabin kartaa wadanka adiga rabitaanka ma ku baabiinay wadanka see adiga الله wuxuu yiri aayadu leeyahay waa sideetanaad waa aayadi sideetanaad waa wuxuu leeyahay wallahi wax kasta oo wax ku burburaan wuxuu leeyahay ana waa fashila u leeyahay waa kala daadina waana burburina mana anfacayo ma arkino alla wuxuu yiri waa 100% waa inaan kulli baano wax alla lagu soo horjeestay qarax maal weeyta hadii orborka ka dhacay last year oo ma arkino magaciisa wiilish dhalinyarada oo shaqada waay oo jaamacadaha ka baxay qaarkoodna jaamacadaha ku jiro oo discrimination lagu haayo oo reer hebel hata wax ma cunaysid wax ma cunitaan ma lagu tala galan ba ina dhimatida lagu go'day lagu tala galay ama mashaakilta airport lagu dumiyay airport qofkii maanta lagu dhaawac maxaa u maleynaysaa ama lagu dilay maxaa u maleynaysaa hantida ku burburto maxaa u maleynaysaa is there anywhere or safe xamar maxaa safe looga waay xamar maxaa way dulmiga ee gashay xamar maxaa way wax haysto maxay tahay عدالة درير هذا سميت فيري مدير وايده سومالي لنا كلاته مقعيش محمود لنا كلاته ما أنت محا على الشباب محيو تقل هذا وحير له عدالة در هذا سميت عدالة درير له عدالة ير هذا سميت عدالة درير معها عدالة له هذا سميت أو ير إلى وقع حفيده مدوين هذا سميت محمد لنا ما أنت كونفورم محمود بابا سنته عدالة در هذا كجرتوه you think إنه ماركنا مقعيش معها ديك المرف العدالة درا كجرن بقول كي بقول عدالة درا كجرت إذن ده سؤال الشباب وطن كذا ووينا ووحش صار كبدنا وفيعنا ودقالها بدنا بدء يبرب يحولي ماركنا مقعيش معها بيرب أي نقطة لبده وبيو ماركنا لبده يكتهاله قال هان هير ماركنا مقعيش معها شبل وكيال وبيج وين محيو عالفن لا ده محيو تجي لا ده وادول مقاسوه إن مقعيس محوها وحن لبكل مسينيا إن شاء الله لأن يرد أن جعل إلهي درتيس إلهي خير هيدين سيو وحن روا ما أنت وحواي إن شن قفوضة ما أنت لح قفوضة كجرتو أنت قبيل يرير هبل والله كان دعاي دلمي دعاي بدال السوق هذانا فرمانج دربيقة لو دعاي هذا عندي إلهي ما أنت ماشاس وحكجر له ويران كن يشن بقول قفوضة كجر له
war ana lacag kuma sameeyo waxna kuma sameeyo waxna kuma raadsanayo waxna ma ii diidi kartid waxna ma ii siin kartid ilaa alla aan u noqono qof xuna idin soo hor istaagayo wallahi billahi waa jadwalka alla waay schedule-ka alla waxa waaye wixii xun aad alla ka dalbatay wax xun ku siinaa wax fiican hadaa ka dalbatay wax fiican ku siinaa because wax fiican waxa iska ilaalisay wuxuu alla raali ka ahna iska ilaalisay dayax waa ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh dayax hello okay dayax wuu ku jiraa laakiin ma aqaan hello dayax dayax miyay maqlaysaa hold on 1 second I'm speak oh okay speaker ka iga xiran raal ahaada ano speaker ka iga xiran hello dayax oh okay ano speaker ka iga xiran suuqa ano speaker ka iga xiran raal ahaada dhalinyarada waa waxa aan arkano maasha Allah aan jeclahay inay labadooda kalma ka dhiibtaan maasha Allah hello assalaamu calaykum dayax وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ay codkaaga kor u qaad maanta waxaan ka hadlaynaa dulmiga Soomaaliya ka jiro inuu ilaahay markano naga qabto waa waxaan alla ugu dhawaanayno dhalinyaradiina waqtigiina la joogaa waxaan rabnaa inuu ilaahay noogu ekeeyo this time kan dambe oo soo baxay miduu ilaahay raali ka yahay oo danihiina oo raali ka noqdo oo markano magaciisa muxuu ahaa idinka idin simo oo cadaalad markano ilaahay markano adkeyn karo oo adkeeyo ayaan ka door bidnay waxa aan ku jirno inaan markano aan ka baxno bal ku soo dhawaaw 2 daqiiqo haysataa insha Allah السلام عليكم أما سنتها دكتور لما أصحابته فجرت تمام برنامج كحساس واي وأنا برنامج آد مهم برشيد الصومالية saas ay tahay 3 qofood la saaran wax sheer gareey wax dad u gudbiyo kuma jiro ilaahawna soo hanuun haye ku soco dadka inta badan waxa waaye mushkiladaha waa runtii horta dhibaato weyn horta Soomaaliya ka jirto waa la ogyahay aniga hadda si gooni ah cidna aan wax kaga sheegin haddana hadda musharaxiinta hadda jirta iyo kuwa hadda joogaan intaba waxaan ogsoonahay mid walba inuu cararayo kursigaas oo kaliya wax dan Soomaaliyeed ay ku jirta aan laga shaqeynaynin teeda kale horta wadanka la rabo in la xukumo waa ummad Soomaaliyeed oo muslim ah 100% oo sunni ah oo shaafici ah haddana waxa aan arkayna waxay tahay runtii in dastuurka wadanka u degsan inuu yahay dastuur qariban oo dhibaato diinta ku ah oo dhibaato ku ah Soomaaliyeed qaabkii wax ku qaybsanayso oo dhibaato ku ah qaabkii federalismka oo ka mid yihiin dowlad goboleedyada dalka marka runtii horta arrintaas haddii aan dhex galo waa aad u baaxad weyn tahay laakiin mawduuca ah in hawiye siyaasiyiintooda iyo daaradoo kaliya ay ku hardamaan Soomaalida kaleeto meesha ay ka maqan yihiin horta kow waxaa sabab u horta dadka wax walba Soomaaliya hadda xaaladda hadda taagan qofka hadda la sheekaysato ama yaraatee wax macquul la noqon karo wax iska hadalay hadalkaaga u qaadanayaan hadaa dhahda maanta waxaan rabaa kursiyaa rabaa ama ani nolosheeda waxaan diyaar u ahay anaa waxaa diyaar u noqdo tusaale ahaan aqoonteeda iyo kartideeda iyo waxayga rabaa inaan ummadaan ugu shaqeeyo anigoo og riskiga iyo dhibaatada iyo amni darrada magaalada ka jirto automatically adoo intaas diyaar la ah ayaa waxaa haddana shuruudda koowaad ee tahay maxaa heli kartaa maxaa haysataa hadaada wax haysandaad meynis waxaa qaban kartaa haba yaraatee ma jirto marka qunfulkana saaran waxaa waaye qunful la yiraahdo lacag qofkaana lacag haysan inuusan waxaba yaraatee oo noqon karo aysan jirin meel oo soo istaagi karo aysan jirin sida caadigaan dadku waaba kula yaabaan dhaadhahayd waxaasaa rabaayo waxaasna noqdaa rabaayo ummadda wax u qaban rabaayo marka
soomaaliyana arrintaas waa arrin runtii dhibaato weyn ku ah xaqiiqada marka laga hadlayana waxaan dad siyaasaddaas fahmay oo dowlado ajaaniba iyo ummado kaleeta ku xiran oo barnaamijyaadkaas ka shaqeynaya waayo oo lacago iyo konturaad kusoo qaatay hadda waddanka soomaaliya waa la soconaa mucaarad iyo muxaafad intaasoo kulan ee iskugu baaqaayeen intaasoo kulan ee isku imaanayeen ase hal xabba ka soo saari waayeen mar ilaa heer la gaaray in shisheeyaha magaalada caddaanka ahayd arrimaheedan farta laga saaray ayagii la wareegaanay dhahaan ilaa meel hebel iskugu imaada meel la kala tegaayo ma jiraan isla shirka markoo dhammaadana isla meesha kulan waxaa ku qabanaysa war saxaafadaasaa ka hadlaysid marka hadda dad badana waxaa laga yaabaa inay u qaataan dadkaasi mudaharaadka baaqada iyo siyaasiyiinta meesha iskugu timid dad ummadda soomaaliyeed u naxay ama ummadda soomaaliyeed u shaqeeyahaya oo gartay oo soomaalinima iskugu tago oo wax qabsada inay yihiin dad badan inay aaminsan yihiin aa laga yaabaa laakiin xaqiiqada waxay tahay waxa meesha iskugu keen inay yihiin shisheeye iyo gaalo dalkaana aan oona ahayn dal xur ah oo runtii xaqiiqada jirto in laga gambado maahan ay fikir ahaanteeda waa fikirkii uu qaldanaan karaa laakiin masaa ka aaminsanahay dalkan waxaa ka aaminsanahay inuu yahay dal la haysto oo shisheeye haystaan qofkay rabaan ayagay kaambeyn gareeyaan oo dalahooda ka shaqeynayo kuwii kaleeto lacagta haysta ama qabiiladii waaweynaa kuwa kaleeto ay riixayaan oo aan xuquuq ku leen saa hadda sheegaysa qabiil isla dhashay oo intaasoo qaybood ka kooban oo walaalo wada ah waxaa laga yaabaa kan ugu tuunka weyn ama ugu lacagta badan keligiis inuu babo kursiga ku tashto oo dhaho kursiga ani keligaas kale hebel wuxuu warka u gaal laho layska dhaafo oo meel lagu tuuro oo diyaar u yahay wax dadkan ka dhexeeya hadhowtana ku dhaha dad walaalaa nahay waa isla dhalanay kursigana uu rabo keliya asaga keliya inuu kusoo laalaabto qof kaleeta una u ogoleen baarlamaanka runtii xaqiiqada jirtana waxay tahay kusoo gabagabeyna xukuumad walba oo jirta xilligaas oo shaqeynaysa ma ahan xukuumadda hadda taaganta mahadlayo xukuumad walba labadii xukuumadda u dambeeysa ayaa si aada wax u xasuusaa oo u dareemi karaa waxa ay ka shaqeynayaan waxay ahaayeen xildhibaanada soo baxayo inay noqdaan xildhibaano ayaga ay wataan ayaga kaambeyn gareynayo ayaga lacagta ka bixinayo wasaaradda laftirkeeda cadaalad darro soo maaha inaa aniga xildhibaanadii aniga inaa gacanteeda ku kaysay naftirkeeda cadaalad darro soo maaha ku soco cadaalad darro way taa wasaaradda cadaaladda waxay leedahay musuq maasuqa la dagaalamayna ayagiina dowladda qayb ka midana waxay ka shaqeynayaan waxay tahay in xildhibaanadii markaasi kursiga kuwa hadda fadhiisay usoo laabo lahayn ama kuwa ayaga ay wataan se hadda xildhibaanada soo baxayo waa la yaqaanaa qaarkood caadi ama loo yaqaanaa oo magacyadooda hadda lasii sheegaa qof kaloo noqon karta ma jirto macnaha oo usoo tartami karta hadda xildhibaanada ugu magac dheer hadda ma salaadoo kaleeto markaa soo qaadan inkastoo ficnaan magacana soo qaada haddana xildhibaanka loo filayo ama kursiga lagu baratamayo ama la rabo waxaa waaye caliyare ninka la yidhaahdo amniga gobolka banaadir kursigaas iskale waa magacaabaya all of them xildhibaanada oo dhan saas camal ay u wada magacaaban yihiin mid kastaba midaa u diyaarsan dadkii marka deegaankii laga soo doonahay ama dadkii xuquuqda u lahayne wax ay tale ku leeyihiin ma lahan qof aqoon-yahaan waddanka inuu badbaasho wixii xuquuq ku lahaan kara ama uu ka shaqayn kara ma lahan qofkii wixii aa la iska dul saaraa dadkii dhibaatada ka tira badata meeloo wax ka bilaaba ma lahan qofkii wax walbana lacagaa lagu xiro qofkiiba ahami uu ku yeelan karo meeshaas ku tegi karaba fursad maba loo siinayo marka mushkiladaasaa jirto tan waddanka dhan in kor laga haysta ahna way jirtaa oo runtii waxyaaba aada loogu xumaadaa in baarlamaanka 14 September inay jeclaa waxyaabihii qodobo diinta kasoo horjeeda oo intaasoo wasaarada soo ansixiyeen la horkeenan meesha laga akriyo laysku dayay in la ansixiyo ujeedada xeed in guul laga gaaro oo qodobadaas oo diinteena kasoo horjeedo waxaas la keeno marka waxaa ka dareemi karnaa awoodaha ay gaalada nagu dhex leeyihiin qaabkay yihiin dadka meesha jooga inay yihiin dad dhinteen oo wax dareen diimeed uusan ku jirin ummadna in ilaah laga cabsi hadda laka cabsiya hadda ka hadlaysaa oo muhiim ah oo cadaalad darraa ka hadlaysaa qofka
haddii diintii uu sheeganayo uusan diyaar u ahaynba inuu qaato oo wadankii ku dhaqo oo xoojiyo oo diintiiba meel la iska dhigay cadaaladda la rajayn karo waxay tahay boqolkiiba -50 waa -50 xataa way kasii hooseysaa xataa zero xataa ma imaan karto waa -50 iyo kasii hooseysa jirtaa marka cadaaladda waxay imaan kartaa marka kitaabka allah subxaana watacaala kor loo qaado oo dastuurka wadanka uu leeyahay uu noqdo kitaabka qur-aanka si hamiga gaalada ay leeyihiin horta meesha ugu baxo qodob koowaad qodobka labaad internationalka in xiriir lala sameeyo wax ceeba maahan xilligii nebi sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadii waxay lahaayeen international relationship ay lahaayeen gaalada iyo dowladaha kaleeto diinta islaamka aan haysan heshiisyo iyo qoraale u kala qornaa ee ay ku kala dhaqmi jireen gaalada yuhuudda ayagoo madriba qaarkood waxay dhex deganayaan muslimiinta lacag laga qaadi jiray qaar mushtarag ay ahaan jireen oo ayagoo gaalo ah oo nabiga dhibaayo ammaano ay u dhiiban jireen lacag inuu maxamedul amiin uu yahay ogaayeen ase ku ammaan ahaanay wax ugu dhiiban jireen marka in mushtarag lala sameeyo gaalada oo xiriiraadka internationalka la wanaajiyo oo ganacsigii la dhex maro qof diidan ma jirto waxaa la sameyn karaa buugga xiriirka arrimaha dibadda ayaa la sameyn karaa oo ku qeexan safaaradaha imaanaya iyo xiriirada lala sameyn karayo kuwii ay xuduudda leeyihiin waxaasna lagu xadidi karo hadda wasaaradda arrimaha gudaha dib u heshiisiinta wasaaradda arrimaha waxay u taagantaha waxay tahay ognahay oo dowladaha dhan caalamka si international oo official inay ka shaqeyso dowladeena marka loo fiirsho maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe marka uu khilaaf yimaado ama dhibaatooyinka hadda doorashooyinka markay yimaadaan iyo saamileys waxaa la rabaa inay wasiirka arrimaha gudaha uu baxo uu khilaaf kastoo jiro dadku isku keeno oo ka shaqeeyo shaqadiisa yaa qabanayo shasheeya ka shaqeynayo waxay qabato ma jirto wasaaradda arrimaha gudaha waxay u qabanaynin hafiri marka hore alif hadduu ka qaldamo waa dhibaata suurta yunis ayadda 8 qof walba uu akhrisan karaa wuxuu leeyahay wax allaal wixii xumaato ku imaado alla wuu burburinayaa wuu kala daadinayaa hadalkaas waa maarkano wax qur-aanka ku qoran marka alla wuxuu kala daadinayo miyaa rabnaa inaa fiiri hadda fiiri madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen daarood iyo hawiya isku ahaan leh okay ayagiya labada hataa akaadis wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda gudahana labadooda haddana kala qaato safaarada ugu badan ayagaa qaato dulmiga Soomaaliya lagu wado maanta siyaasiyiintooda ayaa waxay isku raaceen on the top dadkaas lacagta bixinayo inay ayaga mahan cid kala noolaanin haddana reerkooda waa reerka ugu badan labadaas qabiil maadaama ay qabaylo waaweyn ay yihiin soo dhibaato ma marka waxa loogu hortagi karo wallahi waa arrin dhibaatadeeda laakiin dastuurka waxa ku qoran in wax laga bedelo yaa bedelahay labadaas qabiil bisa qoraan labadaas qabiil uu rahman yahay Soomaalina ayaga hortaagan shacabka ma labadaas qabiil kama hadlay aniga kala iyada laftigeeda hadda international la noqdo hadda qof walba qof telefoon haysta oo live soo gali kara oo hadli kara TV ka hadli kara wax walba la sameyn kara waxay dhigi karaan aniga barnaamijka kana shaqo kuma lihin wixii waxa la sameyn kara isku day iyo midnimo jira hadda waxa laga yaabaa ana kaleeto oo Soomaalida kamid ah ama dadka dhiban kamid ah ani hadda waxa laga group kaleeto aniga isla aniga tirsan lacag la siinaasay way yeesmaan u noqonayaan marka dhibaatada waxaan ka soo horjeedna marka alla markuu na garbaashaya waxa waa taas waa adiga hadii ay wanaagsan tahay intaas oo qof barnaamijkana ka hortagtay rabtiin kuwii dhibaatada sameeyay ugu sareeyaa waxay sameeyaan dadkii soo dhaxgalayaan dadka ugu daciifsanayna soo qabsadaan lacag si aanay yeesmaan u noqonayaan marka automatically ama qeyla miska dhaaf waxa waa wixii waa socdaan waa marka mushkiladaas marka waxay u baahan tahay in laga joojino wacyigelinta la wado oo dadkaas wax loo sheego waxaa ku jira iikar hay okay dhamayso waay qofka waxaa muhiim ah inuu qalbigiisa diinta ku jirto markaas alla ka cabsiga cadaaladda wixii way soo dhici karaan laakiin qof aan intaas shaqo ku lahayn qaab uu ummadaan ugu maamuli karo aniga ma aaminsan aniga fikir ahaanteeda waxaan qabaa in qof aan aqoonin kitaabka quraanka لفظا ومعنى تفسير كنا أنا فاهمين أقول إن سومالي مدحوين وكنا إن لقى ممنوعان قبا قف أنا أقول تفسير القرآن اللي أمده قامين سيئة هذه قال ما أمده هذا دين تود أقول وح أكو قامين بتمحيين
aadan kaaga mahad celinayaa. Dhinaca kale waxaa ku jiro ikara ku jiro oo asagana nala falanqeeyo, kheyr allah siiyo. Ikar way maqlaysaa malena? Ma nala bilaabatay, ma nala socotaa mise waxa waa kaa daba geynaa? Okay, waxaan ku bilownay maanta cadaalad darra Soomaaliya ka jirto. Ilaahay wuxuu noo cadaabayo oo rabsho maarkano iyo dhibaato iyo cudur iyo qax iyo al-shabaab iyo wax kastaba iyo dowlado kale waxaa noo keenay waxaa waaye inaan annaga cadaalad darra aan isku samaynayn. maalin laakiin waxaa laga dhawaajiyaa qof walba oo Soomaali ee most likely most haddaanba dhihinba waxa waaye gaar ahaan kuwa siyaasiyiinta waa munaafiqiin waa most of them kulligooda ma dhihi kara xaasha lillah. dad ay dan ku haysa way iska jiraan oo weli xoogaa yar ayaga naftirkooda daciif iska in maanta 31 qofood 0.5 ka laga qeylaya 31 qofood oo baarlamaan in loogu daro maxay dhibaysaa? It's nothing. laakiin ma ogolinba aniga adiga inaan sinaanaanba ogoleenba aniga sidee marka aniga iiga rabtaa anaanba ogoleen sidee iiga rabtaa inaan aniga adiga qof kale kula siisamo aniga ay la mid noqotid waxaan facay male. Soomaali waxa problemka haysta 60 sano iyo balaaska la soo dhaafay waa beesha hawiye iyo daarood waay. ayagaa sandanada qaato qof kale madaxweyne kama noqon karo, qof kale prime minister kama noqon karo, qof kale ma arkano hay'ad kale kama noqon, qof kale ra'iisul dastuurka ma siici karo, qof kale wax kale ma noqon karo. ayagaa isu koobeen. ayagana siyaasiyiintooda kaliya noolo maanta labada famil oo baabaasan meel walba ku baabaasan oo qoriga iyo al-shabaabka iyo meel kasta ku baabaasan gaar ahaan Muqdisho maanta yaa ku baabaasan qabiilka hadda sheeganaya ku baabaasan. marka waxa waaye cadaalad darradii aan rabnaa maanta ilaahay aba na garansiiyey alxamdulillah 60 sano kadib in cadaalad darrada ku jirno maanta adiga waxaa lagu dhahay maarkano daarood iyo hawiye matid maba isoo sharxi kartid. daarood iyo hawiye laftirkooda laf hebel taa ma isoo sharxi karta amaanay aniga adiga isku aabiska hooyo aan leeyahay adigana hooyada reerkaas waa ma isoo sharxi kartid anigana reerkaas waa hooyada laandheer waa isoo sharxi karaa. dayaxna meesha maba imaan karayba meesha taagan tahay. waxaasoo dhan waxa looga bixi karo cadaalad inaan kusoo noqono. cadaalad darrada maanta Soomaaliya ka jirtaan ka hadlayna inaa ka qayb qaadatid. welcome walaalkeen. codkaaga kor u qaada codkaaga mala maqlaayo. بربلان تاعي وعرت واحد كان وفات قلت تاعي وعرته وحرد بضوء وحرد بضوء لكن ما موقت واحد أو ديرتان أو صوماليا الرماية بربلان كان عدالة الرواية عدالة الرضا الأمراض هو عدالة الرضا وصو إلى 6 سنة وحصو 6 جرسدين واقعي ساشيغيسا marka wax soo 60 jirsaday oo wax soo 60 jirsaday in la bedelana xilligan hadda anaga intaan noolnahay ilaahay waa la bedeli karaa raxmad rabbi waa iska imaan kartaa laakiin ay jirto dadka waa la soo sheekada dadka la soo waqti la soo qaadatay waa cadaalad darro ilaa 60 sano hadday soo jirtay aragti ahaan cadaalad darradaasoo midnaha waa kala xoog badan tahay qayb haddii hoos loo daadeg waa kala xoog badan tahay hawiyaha dhexdiisa ay ka jirtaa daaroodka dhexdiisa ay ka jirtaa ayaga dhexdooda dad kale oo ayaga banaanka ka oo labadaas beheena cadaalad darrada ay ka jirtaa oo ayagana Soomaali marka wax yar ku jiriya kala hay ku soco waxaan kutubka aanba cadaalad darradana waa ka jiraysaa kutubka quraanka iyo diinta islaamka waxa dhaanba cadaalad darradana waa ka jirtaa. marka wallahi maslaxad Allah keena ma naqaano waxaan marka dada ugu badataa cadaalad darrada qof oo cadaalad darrada wax ku helaan laakiin cadaalad hadii la yimaado waxa heleynaa inuu iska jira laga yaabaa. maxaa laga yaabaa qof cadaalad wax ku weynay ma jiro? bismillah yaa waa qofkaasna qofkii hadda wuxuusan xaq u lahayn haystana. okay I got you. haddana ku fahmay haye ku soco. waxaan xaq u lahayn haddaad haysato haddeertaan haddii oo cadaalad la keeno oo hadda waxaa jira Soomaalida hataa minority majorityna wax laguma qaybinin sida qaabka wax loo qaybin lama yaqaanaba hataa marka laakiin waa laisla joogaa nin walbana siduu xeeladaysan kara siduu wax u qiyaani karaa ama u dhici karaaba Soomaali lagu wada shaqaystaa taas waa iska caadi. waxaa jira hadda qabiilooyinka inaan ka dhawaajiyo hadda la tacaarufo waaye meesha horta qabiilaana lagu fadhiyaa hadda
baarlamaankan jira waxaan jira qabiilaa lagu fadhiyaa marka siyaabaha hataa baarlamaanka lagu fadhiyo qabiilada markaad u fiirsato sida qabiilooyinka qaar waxyaabaha ay haystaan markaad isbarbar dhigto waxyaabaha oo istraana oo macnaa waxyaaba la yaab oo kale iska noqonaya waxyaabaha qaarkood qabiil yaro waxaad arkaysaa oo xildhibaano fara badan haysta qabiil badan oo xildhibaano yariis ah haysta taas hataa iyadoo qabiilka ay tahay taasaa jirta hataa marka sidii loo kala orod badan yahay ama gaalada loo rufiyaanayo haddii noqoto ama xabada haddii noqoto loo kala daddilow badan yahay waxaas dhan walaxaa hadda soomaaliya lagu helaa haddaa daddilow ku fiican tahay haddee meeshaan sideeda kii militariga ahaayoo dadka macnaha waa iska qaadna ay dhahayeen ama ha saxsanaad ama ha qaldanaadeen jabhadaha fidi jabhadihii qabiilooyin ay ahaayeen jabhadahaas xagaa harkacay qaarna waa iska fadhiyeen markii kaasilshaday waa iska aamusnaayeen meelaha iska joogeen ayaga xisaabtaas ma ka qayb gelin dadkii xisaabahaas ka qayb gale oo ridi intooda badan waa is habeeyeen markiiba ayagoo qabiil ahaan ay wax usu diyaariyeen wixii markaas aan hub qaadananay markaas ayaga maxaa ku dhahaa ay ayagana hubkii iyo wixii ay qaateen ay qabsadeen inta badan saas ay badan tahay marka bahasha weyn laakiin hadalaa ka dhawaajisay oo ahayd magaciisa minority rule majority diinta islaamka intay kaga jirtaa majority qofkan xigma hadduu aabbo uu dhalay 2 cunug uu dhalay aabbana qof kale uu dhalay 10 cunug ma qasabaa in maarkanoo kan 10 cunug la xushmeeyo oo wax kasta uu kasoo baxa mise kan 2 cunug haddii dad fiican ay yihiin ayaga raftirkooda xaq ay u leeyihiin عدافير وحكى جرا majority minority horta waxaa keenay reer galbeedkaa keenay macnaha laakiin suldo oo muslim oo imaam hal nin oo kaligiis meel kale ka yimid ahaa haddii cadaalad ay jirtaa dadka hogaamin kara oo aaminaad iyo diin waa kaas waxaa kala jira horta waxaa kala jira wax dimuqraadiyadda oo la sheegaya diin ma aha wax diina ma aha dimuqraadiyadda macnaha dadkan waa dad barnaamij lasoo guuriyo la keenaa diinna ma aha maxaa ku dhahaa diinna soomaalida diinna markii hore diinta waa haysata soomaalida laakiin xayaalada ayaga ay leedahay ku dhaqmi jirta kitaabna si toosa uguma dhaqmi jira marka teedii horena waa ka guurtay midaa dimuqraadiyadda la sheegaana oo hataa reer galbeedkana ma qaadanin wax diidaayo male haddii cadli uu jiro in dad kale nooc oo soomaali kale nooc hataa min cadli oo maraykan leh inuu xukumo hataa wax diidaayo male ninkaas cadaaladda loo oo muslimnimo markii la qiyaasayo oo ninkaas muslim hadduu yahay oo cadlifanayo ninkii waa cadaalad badan waa loo fiirinayo qabiil laakiin haddii oo macnaha sida wax ay ku dhisan yihiin mar walba sida wax ku dhisan yihiin waxa dhisan ayaa wax lagu dhisaa magtu wixii dhisanaa wax lagu kordhisaa aasaaska dhisanaa wuxuu yahay mid ku dhisan qabaa'illo aasaaska dhisan hadda saas waaye one man one vote ayaa maarkinoo laisku soo qaadaa maan ilaahay keeno warabi iriis wax yar waa kugu soo noqonaynaa naasir assalaamu calaykum magacaaga naasir waa ujeednaa intee kasoo hadlaysaa rala maasha allah aadan kaaga mahad celinayaa magaaladeeda waa xaafadeeda waaye maanta waxaan ka hadlaynaa niyahow soomaaliya waa soo dhiraandhirinay wax badanaan soo qabanay Somali Academy Network oo aniga aan maarkano aan ka tirsanahay iyo Soomaali badan iyo culamaa u diin iyo aqoon-yahano iyo siyaasiyiin waxaa noo soo baxday in wadankeena dulmi uu ka jiro wadankeena inuu dulmi ka jiro oo ah maarkano magaciisu muxuu reer hebel wax noqon karo reer hebel wax ma noqon karo laba reer hebel daarood iyo hawiyaan soo qaaday oo aniga aan mid aan ka tirsanahay waxay ku saloobeen in labadaas reer le madaxweyne noqon karaa ra'iisul wasaare isku noqon karaa Soomaali kale waxba noqon karin ayagana inuu cadaalad faleeyeen dadka ay ka dhasheenna waa dadka ugu baabaasan maanta hadii waxbarasho ahaan lahayd hadii nabadgelyo ahaan lahayd hadii caafimaad ahaan lahayd hadii horumar kale ahaan lahayd waxa ay maanta dadkaas ma arkano u qalmeenna ma helaan ummad kalena warkeeda iska badaabo
haddii la dhahay labada madaxweyne iyo ra-iisul wasaare, wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo in between safaaradihii iyo hay-adihii kale labadooda u badsado wax ay kasoo naasa cadaana ma jiro. 60 iyo dhowr sano labadaas qabiilaa haysato. walaalo waxaan maanta ka hadlaynay, waxaa noo soo baxday cadaalad darre inay tahay oo adigana iga saraynin, anina aan kaa saraynin, adig kaligaa wax noqon karin, anigana aadi iga maarmin oon meeshaas u simanahay. hadda Israel marka la dhahayo nin reexamara maarkano bilow saqaawdiin qeyr aan maarkano allah naxariiste maanta markaas lama dhehaynin adi laangaaba tahay laangaab ma jirin. gaaladan maarkano magaciisan talyaaniga noo sameeyey laangaab iyo laandheer, labadan famin qabailkiisa qabaa'ilkaasa maarkano magaciisa labadaas qabiil ayuu bumbuuniyey si Soomaali aysan dabada ugu dhegin, waxna u qabsan, islaamnimadoodan ay ka dhaadhay. islaamnimada meelay ugu jirto male, meelaa adiga iiga saraysid, meeloo adiga ii kar kaaga saray, meelaa adiga gabadheeda kaga sarayso, meelay kaga jirto male. marka arrintaasaan rabnay inaan ka hadalno. Cabdalla Dayaxna wuu ka hadlay, kheyr allah siiye, ii karna wuu ka hadlay, adigana saasaan kuu soo dhawey. welcome walaalkii. si fiican doctor maxamed. horta waxaa run ah horta waxaa waaye Soomaali caqligeedii horta waa kordhay alxamdulilah. si fiican ilaaha kuma qaadeen maxaa la dhahay hadda dowladda meel gaarsiisay iyo bini aadan kaleeta hadda meel soo gaarsiiyey iyo iyadoo la dhehaynin oo caqliyan markii laga xisaabtamo hadda sidii horumarka loo gaaray horumaraan gaarnay marka lagu dhahayo waxaa waaye caqligeena. marka Soomaaliya haddartaan way fahansan tahay cilada meesha ay ka jirto inay tahay laba qabiil. labadaas qabiil waxaan ahayn dhib ma ka taagna, waayo inta haddii la fiiriyo kan waay, xagga haddii la fiiriyo kan waay, dhinac walba waa la wada fahansan yahay. Soomaaliya intii Soomaali ah si fiican isku taqaaneen. haddana waxay sii gaartay fiiri labadoodia waxay sii gaartay wax yar Cabdalla waxay wadaan cadaalad darro waaye. ayaga diskursi inay ku koobnaadaana ma ahan. muhiimadda waxaa ah kursigaas Soomaali dhalad ninkii ah, yar iyo weyn, qabiilada sidii loo kala yahay inii loo siman yahay oo annaga dhan horta hal qabiil aan ahay, qabiilkeenaasna uu Soomaali yahay. marka dibadaha iyo meelahaas la tagada ninkan qurbaha joogay, annaga dalkan joognaa waxaa aaminsannahay inaa maaragtay lafa hebel iyo qabiil hebel iyo habiil iyo daarood iyo saas markii lasoo kala dadaago inay qabayl ay sii yihiin. laakiin qabiil haddii la dhaho xagga dadka xagga jira si fiican looga yaqaan soo maha. marka Soomaali dad badan way jiraan oo fikradahaas qabo oo maaragtay wax haddartaan micnaha garab iyo wax badan aan haysanin. Soomaalida horta waxay ku kala jabtay waxaa waaye isma oga. hadda adiga waxaa ka mid tahay dadka dhalinyarta xariirinaayo, dad dhalinyarta raadinaayo, ninkaasoo kale waa ninkay u baahnaayeen. aad iyo aad marka baahiyaha jira meeshaas. marka aniga xaggayga waxaan ku dhihi lahay mudane maxamed, lugtaada ha gaawinin, hor u soco. insha allah hadduu ilaahi yidhaahdo way sii badanayaan, dhalinyar badanaan kugu seexira. aniga waddankan daacad waa wuxuu u baahan yahay daacad markuu dhahan qofku waa inuu dhalacadday ahaado. aad iyo aad marka waxaa waaye aniga haddartaan waqti dambena way ii tahay inaan sii jiifsadana waa rabay. barnaamijka inaan ka qayb qaatana muddaan raadinayay. barnaamijyadaada waa maaragtay habeenkii u dambeysay aan sama filahay. aad iyo aadaan kaaga mahad celinayaa. habeen wanaagsan, ilaahay idiisoo sama toosiyo insha allah. hadda kadamba waxaan isku taragareynayaa early inaan soo, inkastoo aan wiiga dambe aan soo baxayba oo insha allah Soomaaliya aan joogo haddii ilaah raali ka dhiga iisoo duceeyo. ma aha aniga inaan wax noqdo kama wadi wallaahi, laakiin ilaahay waxaan ka baryaynaa cadaaladda haddaan ka tagno anigii adiga iyo wax nalamida inaysan waxba qaban karin. ma fahantay? waa in ayaga isfahmaan. markay isfahmaan wax la sii horwadi karaa. hadda adigoo kaleeto waa inaa anigu fahmaa, dad kaleeto ku fahansiiyaa. inta hadda qatl iyo maaragtay ciwaanada aan kala haysano waa isfahansannahay. dadka inaan sii fahansiino waa muhiimadda markii oo hoggaan la dhahayo. hoggaankan waa qof dad jidka saxda ay ku taagan oo dadka u sheego. marka adiga waxaa tahay ninkii soo sheegay anigu waan qabay laakiin ma sheegin. waxa ay dheertahay waxaa waaye halaha aad sheegtay. ma fahamtay? insha allah kheyr allah ku siiyo. haddii ilaah raali ka dhiga waa ismaqlaynaa, waana wada xiriireynaa. allah ku xafido. dhalinyaradiina waxaan idinka ballan qaadaynaa alla haddaan isu dhiibno oon isu taageerno, waxaan idinka ballan qaadaynaa alla wuxuu raalli ka yahay waa lagu liibaanaa. inaan liibaan 60 sano kadib liibaan inaan gaarno. waxba ma toosin karna, alla nala toosinaa insha allah biidnillahi kariim. dhalinyaradiina maanta reer Muqdisho
in aad dhibka ka baxdaan waxaa looga waxayn karaa inaan kulligeen isgarab istaagno maaha fiiri hadda maanta somaliland markaad tagtid guriga aad ku tagtid isla markii reer kugu dhigan waa sheegaan waxaa leeyahay gurigaas waa lagu soo biiri naasir yuu yahay intuu ku nooga imaaday meeqow la socdaa thank you very much puntland saasoo kaleeto dhibaato kama dhacayso waa ku faraxsannaha ilaahay dhibaato uma keena ayagoo dhan koonfurna waxaan jecelnahay saasoo kaleeto ilahay hadda nabadgelyo marka la baydhawacan kaleeto markaad tagtid nabadgelyo ma fahmino gudaheeda hal qof oo qori wata ama hal qof oo ku shacaadaya hal qof oo ku dhibay ma soo arkin kismaayo dhexdeeda nabadgelyaa jirtay laakiin aaba ummadihii kale marka insha allah waa ka saaraynaa ilaah baa ka saarayo annagoo wada jirnaan ka saaraynaa insha allah ilaahay naga waafajiye ilaahay baan isu dhiibaynaa idigana noo soo duceey markasta aad tukanaysa insha allah next weekna muqdishoan joogaa halee maarkano halay soo duceey hadduu ilah raal ka dhigo insha allah haddaan ishaleeli weyno insha allah maaragtay dad kale ciwaanka nambarkii baalkii messengerkeyga waad heshaysaan filaayo xagga la iga soo qabo insha allah allah ku xafido waayo assalaamu calaykum shukran kaasi wuxuu ahaa naasir oo muqdisho joogo oo asagana maarkano u baahan taageero oo maarkano in la taageero cadaaladda iyo allah in loo dhawaado insha allah biidnillahi kariim waxaan soo qabanayaa hanad ayaan kusoo qabanayaa hanad telefoonkeyga idinkama soo qaban kara ma aqaan wax dhacay marka waxaan kaa soo wacaya messengerka bal iga qabo insha allah biidnillahi kariim ilaahay waxaan nooga baryayaa guula nooga baryayaa ilaahay waa noo naxariistay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay oo hore noo soo maarkano magaciisa muxuu ahaa uu noo wado waxaanu ku heli karnaa annagoo isku cadaalad farno insha allah biidnillahi kariim haddana hanadaan soo qabanayaa insha allah waxyar okay ikar haye ku soco ninkii dhalinyarada ahaa wuxuu leeyahay waa maqlaysaa umaleynaa ikar ku soco walaalkee ha ku soco dhalinyarada aada iyo aada maarkano u firfircoon waaye oo dhibaatadana haysato dulmigaas ka jiro waaye u dhahaayo bal ku soco waaye intaasoo qabanaya cabdallah aan kugu soo daraa insha allah dhinacan kale wax kama soo qaban karin laakiin insha allah cabdallah aan soo qabanaa ku soco intaas soomaalida baraarug saas ay beertaan soomaalida waxaa adoonta meelaha tabiicadda inay iska dhaafaan oo ku baraarugsan waxaa jira waxaad hadda wax ku doonanaysa oo systemka hadda dhisanba hadduu qabyaaladku dhisan yahay oo 4.5 aad wax ku doonanaysa waa in systemkaas sida horta marka hore dadka waxgaradka dad ummadan waayo dadka culamo ay leeyihiin culamadii ilaahay kugu daraada oo qaalaa jirtaa lale dad kaloo waxgarad ogaasya wax kalaa jiro marka waa barnaamij oo waa ku soco waa ku maqlaa ها برنامج تذكر لنا كل عليها ومثلا تعالى أمتي وطن كاس دقنادان واحد أسكت عليها waxyar sug ikara ku jira hanad waxyar sug haye ikar ku soco marka arrin oo waddankeena dadkii deganaa hadday isku raacaan ay masha male marka ay masha meel loogu bixi karo male marka waxaa layidhi urjiif aadis ku gowracan maamaha aa jirta urjiif aadis ku gowracan cunuga caloosha ku jira hooyadiis haddii la baray asla meesha ku dhimanaa mogta gudaha caloosha isaga dhimanaa waddanka soomaaliyana waa bereysan yahay wuxuu u bereysan yahay haddii qofkii soomaaliya oo u qalmo madaxweyne waa noqon karaaba barnaamijka uusan ahaan qofkii u qalmo oo macnaha waddankii waa badbaadin karaa lisne oo iimaankiisa waa fiican yahay akhlaaqdiisa waa fiican tahay diin ahaan waa dhisan yahay cilmi maadi qofkan waa ka dhisan yahay
qofkaan qabyaalad looguma baqaayo qof la dhahaya wuxuu rabaa reerkuu rabaa kasoo jeeda haddii oo uusan noqon karin madaxweyne waddanka ka noqon karin oo ra-iisul wasaare uu noqon karin waa isbaaro meel taala mogtahay isbaaradaas meel taalada ilaa la qaado dadka kaloo dhan oo mufara ma fahamade صح marka isbaaradaas markii la qaado markii la qaadana waa markii oo 4.5ka laga tago oo wax kale la yimaado oo si kale loo dhigo oo ama tiro meelaha dadkii codod ay codeeyaan ama Soomaali baarlamaankeeda waa intaas lagu qancaa hataa gobol haddii la rabo hataa loo dhigo 18kii gobol loo dhigo hawlaha barnaamijkan 18kii gobol maaha dadkii oo voodkooda meelaha oo dadkii codeeya shacabkii Soomaaliyeed oo codeyna ma aha aad iyo aad marka nin tooxsi aa la dhahaa marka taloo kale nin tooxsi waayo hadda Soomaaliya waxaa Soomaalida hadda ay isku hayaan nin walba ninkuu ka qoriyo badan yahay uu riixdaa ma fahamta صح qoryahan oo reer galbeedka laga gato ama carab ha keento ama afrikaan ha keena nin walba ninkuu ka qoriyo badan yahay adiga haddaad 10 qof tahay reerkiina 10 qof uu yahay reerka idinka soo horjeedo 2 qof haddii qori idinla soo baxaan adinkana aad gacmo marantiin reerkaasaa waxay rabaan idinka samaynaa mogtahay aad iyo aad hadda waxa ka jiro waxaa sidii loo kala qoriyo badan yahay أنا الصواب سومالي في ضد وزراء تعبدوا ويد كسر بالله قبيلوي كان ويد جنسيس كذا ما جرير واحد هذا ضد بدوا سومالي حافظ الملك لكن ضد هذا بدوا ضد جرير كسر هذه مثل جرير waxay xaq u leeyihiin bamada sidoo dhanba waxay xaq u leeyihiin mal inay wiilasha agtiisa joogaan oo kalluunka oo wiilka ka soo baxa kalluumayada ay iskala soo baxaan haddii gaar dheer joogaan haddii beledweyne joogaan waa sidaasaa looga dhammaado male wax gooni ah male 4.5 bay ku jiraan camalayna dadkii intaas tiradooda la egtahay ayagii reer xamarka isku xuquuq ah ما اوكي وما سنتهي حناد وقتو دوينينا ويلكم حناد ومقليسي عملينا فرم وقتي غوريسا سو غشو كو جيدي مر ku soco وعليكم السلام kor u qaad codkaaga xogaa codkaaga ma la maqlay anigaasi waxaan ku maqlaa alayaana ogyahay wala jijifa umalena raalaha ha may adiga maaha qof kale ku jiro haye ku soco hanad ku soco wax yar oo roonya hadeer hadaa nagu sii dirto fiicnaan leedahay haye ku soco mashaakil ma leh ما شاء الله هذا هو سودوين يا برنامج كان عاونا مع المها والله عدالة وحكا في عن ملها إن عدالة اللي شو نقو كتاب إلهي سنة وفي عنها بس واحد المقرات والله يجرو المقرات تستور معنا واحد يمكن إسلام كقرات معها واحد على الله كتاب إلهي لون نقو وكسا هذه آذان كاغا mahad celinaya fikirkaada qaaliga ah ma sha Allah waxa ku jiro Sheikh Abdullah ku jiro bal nala joog insha Allah hadda hal qof bisa kor saaran oo share gareey bisle hal qof bisa kor saaran waxaan ka hadlaynaa waa wax cadaalad oo Ilaahay lagu xusaayo oo Ilaahay raali ka yahay fadhigeena Ilaahay Allah ka noqdo hay ku soco hanad ha ku soco intaan in ka badan waan leela faaqrin intaan in ka badan waan leela faaqrin lahay balse meel oo publican jooga marka waa dhigeysanaya waa ta khayr Allah ku sii way jaanis daahishidna oo jaanis heli kartidna ii soo qor hadii kale aan habeen wanaagsan Ilaahay guul ha ku siiyo insha Allah intee joogtaana okay intee joogtaa tiri
oo maasha allah waaya waa tahay allah idinku nabad yaalo meeshaas meel kasta aad joogtaan haye cabdallaan soo gelinaya sheekh cabdallah haye welcome assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sheekh cabdallah waa ku salaamay وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بان مجلس يا سلام يا. waa kaa qaadnay أنا بابيان وسلام يا. معانا اسمها عدالة. أنا كساسن تشاكله. سلام. lixdan iyo dhowr sano cadaalad daraan ku jirnay maalinta xornimada allah maarkana uu na siiyey cadaalad daradii bilaabatay ilaa hadda way ku jirtaa waxaa leeyahay cabdalla reer hebelo waa wax ma noqon karo ii karaa wax wax noqon karo laba famila isu koobta inay soomaaliya ayaga hogaamiyaan waxba lagama qabi lahayn dad islaam waay dad ehel waay dad maarkano maasha allah magac la waay dad soo dagaalamo waay dad oo taariikh la waaye haddana dadkoodii ugu liitay ayaa markasta siyaasadda matalaya shacabkii kalena saasay ku baaba'san yihiin gobolka banaadir meel ka baaba'san maanta soomaaliya ma jirto haddana miraayadii soomaaliya waayaa la leeyahay waa ku dulman yihiin cid damboo timaadaa ku dulman cid aan hawiye ahayna hadday timaadaa ay ku dulman tahay haddii hawiye yimaado ku dulman yahay soomaaliya o dhan aa la dulman yahay point 5ka waxa keenay labadaas qabiil waaye wax qora labadaas qabiil waaye wax oo gaalada iyo maarkino wadamada kala shisheeyaha soo qaada labadaas qabiil waaye labadaas qabiila maara loo la-yahay labadaas qabiil laba qabiil oo sharaf leh oo mudnaan leh oo taariikh leh oo magac leh oo islaam eh oo ehel eh dadka ugu fiicana laga helaa soomaaliya laakiin siyaasiyiintooda yaa saas u baxeen heer waxaa la gaaray lacag in lagu kala gato maanta lacag in lagu kala gato in heer waxaa la gaaray lacag lagu kala gato walciyaadu billah marka welcome arrintaasaan ka faaqiideynayna maaha inaan nacmana annagaa ka tirsan annagaa ka dhalanay haddana waxaan rabnaa inaan isbaraarujino oo aan ka soo baxno beejkaas cabdalla wax ma noqon karo axmedaa wax noqon karo inaan kasoo baxnaan rabnaa insha allah bidnillahi karim ku soco codkaaga xoogaa kor u qaada cabdalla ha waa lagu maqlaa ha ku soco ha cabdalla hadda weli aada lagu maqlaa laakin waa ku maqlaya aniga haddaa ii kar si fiicana loo maqlaayo laakiin adiga xoogaa yar waay ma aqaan hadda macno male haddaad waxba ku dari karin okay waay Iker. Hello. Iker. Okay. Cabdalla saaxiibkaa wuu ka baxay laakiin usigu waa kusoo celinaa. Okay. hadda waa lagu maqlahaa si fiican ha maasha allah waay si fiican waxaa la yidhi mataqaana cadaalad darra dusha guri ka badhismo صح cadaalad darra dusha guri ka badhismaa la yidhi هاي waxaa waaye hebel wax dhaqmi kara hebel yar waxay naqaayaan arrin xalaala ba-una saxan maha dalkan wuxuu ku jibin intaas waa صح aniga marka waxaan u arkaa ii nafteeda markaan isbaraarujaydo ama isdhaliyaydo siiqadan isu baraarujinayn inuu horta raadina aan galo adigu oo yani aan siiqadan umarayno dadka markaan isbaraarujaydo ambaan isla taqaana la isaxayno waxay baanta nafteeda inuu siiyo haddaan ku kuu sheego haddii qof xasaasiya kuridayso ay dad dhibaatay hayso marka hore taas dadkan inaysu riduu baahan adaa hadda markaad saas u hadlayso
وهذا الناس الفيلا بدل من أساس وقرا هاي أبي أخذ وحكاش شيء وعايا وحكاش شيء بس نفكر وحوبة نفكر هذا واحد وقرا وحيا ولي وقفت نفكر أنا حد على درجة نفكر أنا أي بيجستو ما رأيي على غيابه مركا أنا أردت هاي وحيا بدل وحوبة ورت الصحة سومالي نفكر أنا حاول نواجد نشوف برامجين بدل إنه الهرام باهم هاي هذا صار نفكر أنا هم بالله إذا عمره وضدك الموش وواحد نفكر أنا كل إن نفكر أنا يقابل وعبون النور صح هذا هو مثل هذا الشيء هذا ولكن يمكن كل واحد بمثل نفكر أنا هذا حرب المستوى هي اللي بدل كي يحكي لها أي محق لها أي محل غلال أي محق نقول هي بالضاء المستوى وصل بارك الله حتى إيه أدخل ولا حتى هو برينا الصومالي ولا وياه لكن بلد بلا بقى نسبتها إيه تلك نحن نقول هاي أي تكون كرصاي يجين بقى من سنابرة صح يعني إذا قلت مثل وبان بقى والبلد كانوا كذبين اللي أي هاي وأديها لكم من الصومالي والبريابة كده لا هاي تمتها حتى إنتي وبطل أنا نصفقين ولا كائد يسوي وكان ما تقرأ الميسو وزير الله فيها إن غلب لا شرك العظيم من الشركة تريدنا لا شرك هي الشركة غلب عظيم ما يذهب بك لا شرك أو ما تقرأ أن هو من بلاي بك من بس لا نبدي ومن بيان بك وحان قضاء أريد أريدان إنه بانطي أخير نتقى أن هو يقصد قراري وقرار منا يعني كنتين أي نخص بين قصد الله يأفق فيمكنكم بتقى أن الله هي أذكر المستوى بضحاوة الأرنتان يعني كسر ما يشتكر ككرم تبعي جواب آمي عن سنة أو أي بقف من الله هي بتقى أن الجريب أن أرنتان بتقى أن حقا بكر وكلت حواء واقع جارب مين غاي جارب مين غاي جارب أو بأي نتقى الأسفل التيسو بأيك هذا النساء عزيز عنك إنك على الجرشوك إنك على بين الجرشوك مين الجرشوك عنك مين مجارب مين مسالم معهم مين هاي حاجة حتى بتقى أيضا بتقى للمية أنك العريس بيكون سلام عن اسكندرية المرينة مركا أنا قف مسلم معنا هاي وبتقى مع الشهادة إلى نفسي أنا إني هاي كان جار من كتير كم يلا وليا وين حوي لكن أريكات كمان هاي تعين يصير محمد أخوين هي ما تغنى مع المحبين هي بتغنى يمكن فكرة على شيء يصير على بذكرني بأي أريكار أريك تغنى حواي أريك الظاهر إن ما بقى هي أمن لا نسوا هي أمن ما أريك خطته لإلهية المنكر يا كسر المنكر واحد هي المنكر يبغى أنت اليوم بسؤال ده aad iyo aad wallahi barnaamij aad u fiicana ka dhawaajisay adiga iyo Iikar iyo inta ka qayb qaadashay gaar ahaan maarkano labadiina hadda ku jirtay Dayax oo ka horeeyay Hanad iyo Cabdalla Naasir iyo dhamaan waa arin aad loogu baahan yahay aad loogu baahan yahay wallahi aad fikir fiicana keentay waana se u bilaabatay ka horna waa bilaabnay oo waa kuuda jirnay waa ogeedan waxaan tilmaameynay baryahan oo dhan intaas baranay inta ka horeyso adiga meel kale ku jirtay ani meel kale aan ku jirnay in maarkano ummadan maarkano magaciisa cadaalad ay u baahan tahay xaqsoor ay u baahan tahay yaa waa qof ka hadlaya Iikar هاي كوسا عبد الله ومقلو هيسا وحير أرنتان أرن آد يأد لو جبهنيها أردن آد وحنيها وايد علمنا واي هاي واي أرجنا إها قان وله ما أنت الحمد لله سومالي نكسو شقيي إن رباطة التالو وماركنا وحير هدي أي ماركون قانجار إن دافته أي تقودي ماركو وحير أرنت هذا أرن سهل ما لكن هذا لو استاجو الله نلا تلا سارتو إن شاء الله بإذن الله الكريم حكو در لهذا ما يوارون هواي ولا تسوي شيء لكن وقت ده كده والله إسكتيس هذا لكن جهد اللي جيه رفتان فات هذا وحاجر example نين إنجليز كجوجو
oo abshir maarkano magaciisu faarax abshir waxaa la dhahaa furux oo aqoon-yahan ah oo maasha allah oo shaab ah wuxuu yidhi ani madaxweyneha u taagan uu yidhi maanta wax akhrisanayo wax u turjumaanayo wax u waxeynayo ma jiro waxaa leeyahay adig 0.5 ka ku jirtaa waxba ma heli kartid waxaa laga yaabaa dadka maanta isoo sharxaya inuu maanta calooshiisa iyo ilaahay u dhawaashihiisa maanta inuu kaga fiican yaha laga yaabaa ani waxa insaadkiisa ku jiro ma garan karo laakiin reer ahaan ayaa maanta la ma isoo sharxi kartid walciyaadu billaah marka waa dhib waaye maarkano magaciisu okay kasoo qababa digil miriflo alla baarlamaana leedihiin okay dir iyo maarkano magaciisu muxuu ahaa iyo 0.5 ka naftirkooda ma sharxi kartiin haddana maxaa loo dhahaa iyaga intee la sii waa dulmiya ka mid tahay dulmiga hadduu bilowdo waa sii badanaa le bis qofka dadkaasa jabsan dadka fiiri uga mihin horta ma jiro ma fahamta laakiin maya laakiin waxaa taalo laakiin cabdallow iyo iikar labadiina waa isku raacwaysa laakiin waxaa taalo in maanta isku sharci karaan madaxweynaha daarood iyo hawiila isku sharci kara dastuurkeena ku taalaa laakiin waa wax sidaas loo ansixiyey waaye dastuurka waxa ku yaala iyo wax badan oonu ku oolin oo la ansixiyaa jiro soo ma horta Soomaali qabiilka waa lagu shaqaystaa qabaa'ilo waaye waxaa jira qabaa'ilada Soomaalida maadaama heshiis lagu shaqaysto oo gacansaar ay leeyihiin gacansaarkaasna sida diris leeyahay inta badan u badan yahay isfahamkana dowladaha sidii isu fahmaan dowladaha oo dad kale oo xiriir oo waxaa jira oo ay ka meelahaas bay ka keenaan oo militariga xagga militariga amniga inay iska kaashadaan jiraana jira dowlada adduunka ku yaal oo sida NATO kale markii la dhaha marka qabiilada Soomaaliya waxay heshiis ku inay wax isla boobaan ama wax isla waxaystaan balmatana waxaad ka soo qaadaa hadda ka hor waxaa jiray qabiil oo hawiye ah iyo qabiil daarood ah soo baxay gobollada dhexe ka soo tagay Kismaayo yimideen Kismaayo ayaga gobollada dhexe ka imaadeen meesha ugu dhexe ugu sokayso waxay ka imaadeen galguduud iyo mudug ay ka soo tageen dadkaas Kismaayo yimideen Kismaayo waxay dhaheen annaga Kismaayaan haysanaa meeshaan annaga xukumayna maamulayna waana qabiil waa dowlad maaha urur maaha deegaanka ma degana caana ma keenaana maldaay badda kama dabtaana dadkay canshuuranaya magaalada ay iska joogaan ma fahantaada marka qabiil isbahaysiay samaystaan marka hadda waxaa jirta fiiri oo markii imbagaata la jiro waa sheeka Soomaaliya meelaha suuqa la soo geli sheeka waxaa jirta laba qabiil oo meeshaas joogtay madaxweynihii markaas imbagaata madaxweynaha soo noqonaya wuxuu soo jeediyaa lale waa sheekada suuqa taal wuxuu soo jeeday maqal adiga qabiil hebel ma tiignaa hadda adiga madaxweynaha qaadatiin aniga waa inaan ra'iisul wasaaraha hel hadda aniga madaxweynaha qaatan waa laba qabiil midna hawiye waaye qabiilna hawiye kusoo jeeda hawiye qabiilka kalena daarooda kusoo jeeda maxaana intaas loo mara horta waa in isweydiisa waxa dhan corruption waaye waxa cadaaladda lagu dhaqmaayo waxaas dhan imaada hataa madaxweynaha maxaa loogu wada ordaa ra'iisul wasaaraha waxaa loogu wada ordaa in wax laga tacbado oo dad lagu khiyaano oo markuu asaga qofka ka noolaada qabiilkiisa uu ka naas muujiyo madaxweynaha marka maxkamadda bakayayso la xisaabtamayso madaxweyne Soomaaliya oo la xiraa ama ra'iisul wasaare la xiro dambi lagu soo ooga ama wasiir dambi galay oo la dacweynayo corruption iyo wax loo haysto weligaa ma aragta caalamka madaxweyne oo Trump hadda waa la dacweynaya Trump oo dacwooyin iyo wax ayaa ka marka annaga dhibaatada ma haysato aragtidayda markaa soo koobo waa barnaamijkaas waaye laakiin ma jiro meeshii mawduuca u soo noqdee madaxweyne adiga waa usu sharxi kartaa aniga waa usu sharxi karaa ninka hebel dalxa waa usu sharxi karaa cid lacagtaa kaa xigta laakiin waxaa jira heshiis hoosaad oo maxaan ku dhahaa dadka maadaama majority meesha ay kuraasta ayaga dadkaa ku fadhiyaan
وياهي دارات الماجورت كراس أي كفر يعني ضد كلا لما كراس marka barnaamijkaada marka waa difaacanaysaa kursiga ada aan lahaan jirtay duniga ku fadhi jirtay oo madaxweynaha aad heli jirtay ama ra-iisul wasaaraha aad heli jirtay inuu albaabka goo nin oo wiilso nin oo makana inuu ku fadhiisto kursigaada marka waa difaacanayo waa iska celinay makanahana dad badan kama fadhiyaanaba oo baarlamaanka kuraas ama reer shabeellaha dad badan yaa u diiday yaa u diiday baarlamaanka naftirkiisa dulmisoo kuma imaanin cabdalla reerkiisa wax ma noqon karo reerkaaga wax noqon kara leesoo kuma imaanin may de annaga waxaan ka hadlaynaa waxa qaladka oo dhan aan ka hadlaynaa waxa lagu soo dhisay labadaas reeraa meesha fadhiyeen ayaga ummadda kale ay daba taagnaayeen waxay ayaga ayna qaybineen ma qaybsamen jareer weyn inay imaadeen may dheheen annaga 3 aan leenahay oo maarkano hawiye u yimaadeen 61 aan leenahay daaroodna u yimaadeen 61 aan leenahay saas ayaga ma dheheen thank you very much marka jareerka waa inuu fariistaa waa inuu cabdalla fariistaa waa inaan fariistaa adiga aad fariistid saasa maarkano aan wixii ku wada qoran karnaa soo ma هاي سو أركت عبد الله. القصة على من بياتي الله يمحرس ويريد مثل رابط قام يريد معاني محمود في عبد الله يوسف في من الجيرتين ومت أنت مثل ما إسقاط كاسكر ويريد لا يعن كنا شيء فربا اتفاق ما تسكر أي قصة بعيد لكن بين متقام حساب كل ما له حلم ولا منتوي. أنا أساس ما يريدون كم هم يريدون تاي حتى البيت يحل كل كرناء جرو أنا هذا بتقول ما قبل ما تغير قبل ما تكسر من قبل ما أي مقص لكن البيت من ورث المنجور البيت واحد بس هذا بالبتقى من نسأل رسول سلمي يعني البيت فرنج بس شن كان فرنج حتى كنت المسلم لا يحللون كل السنية بالنهاية كحوض السنية إحنا مجرم مد واكر بيان تايوان كلام بقال بيان تايوان كلام بتقى محاولة ربنا تاي حديث كان كين يحكي واي من نقيس بكنه إيه بتقى محاولة بكنه أو بتقى محاولة إيه شكرات الغارية بتقى محويس وتقول ما هو لا سخليه أنا كذا بذكرت I'm not talking about taska mahalla aniga waxaan ka hadlayaa 4.5 oo dhan marka la isku daro qabaa'ilada Soomaaliya iyo maarkano magaciisa 30 inay qaataan xaq miya cadaalad miya aniga jareerka ma hadlays kulli waxaan ka hadlaa wax alla waxaan hawiye daarood iyo dir iyo raxweyn aan ahayn marka la isku daro cadaalad darro Soomaaliya in la dhaho 30 ay leedihiin xildhibaan I'm not talking about 4.5 kuma hadlaya intaas cadaalad darro ma tahay mise maaha aniga bas marka intaas leen ka hadlayna waxaan rabnaa cadaalad inaan ku soo noqono jareerka uu kursiga fariisto abgaal kursiga uu fariisto majarteen kursiga uu fariisto raxweyn dhan oo kursiga fariisto isaaq kursiga fariisto anybody else kursiga fariisto raxmar iyo maarkan carabta ay fariistaan in la wada fariisto oo la isqanciyo oo wixii allaal wixii la qaybsan lahay oo maarkan wanaag lagu qaybsado ma fiicno mise waxa fiican afar qofood inay guri isku soo xiraan Allahu akbar Soomaaliya to soo ay qaadaan soo dhibaato maaha waaye fiirsaan waa fiican tahay laakiin si lagu gaaro wadada lagu gaaraya ka horeysa wadada Cabdalla sheegay waaye wadada Ilaahay uu fasaxay oo Cabdalla uu tilmaamay oo ah wacyi gelina loo baahan yahay wili wacyi gelina loo baahan yahay wacyi gelintana adiga kaliya maaha asha Cabdalla maaha aniga kaliya maaha kulligeena waay inaan wacyi gelin bilaawno cadaalad u soo noqono alla aan ka baqno wallahi been ku sheegay hadii 10 goor isku soo xigto hadii Soomaali qof kale uu noqdo oo aan nabadgeliyo aniga helay aniga ahaanteeda familkeyga nabadgeliyo ay helayaan deegaanka dadka la deganahay neighborhoodkeyga nabadgeliyo ay helayaan beerahayna abuuran karo xoolaheena qaadan karno dad konton qabiil oo waxa jira xataa madaxweyne aan rabin haddana nabadgelyada la ayhin cadaalad darra haddana haysato waxbarasho la'aan haysato waxa ugu daran maarkano al-shabaab ugu sii daran wax ka qaada ma jir madaxweyne kasta wuxuu leeyahay al-shabaab anaa ka burinaay hooy male oo caafimaad ma haystaan oo waxbarasho ma haystaan oo nabadgelyo ma haystaan oo horumar kale ma haystaan soo dhibaato maaha marka
إلى كل شيء دين من شيء ترى ما كنا دين حب وصهيرين دين ما وصل وحنا تاويته إني كتمدرته صوت حوادث الدين وابن المعسير كالدين aayadda ilaahay waay aayadda ilaahay oo adiga aad taqaana suuratu nisaa oo maaragtay suuratu yunis oo 8 waxay leedahay wax allaal wixii oo maaragtay ku imaado sixir iyo balaayo iyo jinni nawmus waqtigiisa waaye alla wuu furfurayaa aayaddaasna aad taqaanid marka waxa aayaddaas aan haysato wixii dib ku imaado oo cadaalad darro ku imaado alla wuu furfurayaa mana hagaajinayo sideen u hagaajinaa waa arrinta ka dhawaajisay khayr allah ku siiyo waa inaan wacyigelin aan wadnaa aan bilownaa horna u wadnaa cidda nagu nacaysa iyo cidda nagu jeclaanayso وردكها إلهي السنة وقفنا ما يسترى أن فيصل بوشيوسا تقول هذا يمكن عسيها فبقى بدفي هذا بدفي عالي فيه ما أنا عالي يا حوا يا مين كل كان حوا هذا مثلا ليش البني يا كل كان عسير حوا ولا يجيتوها أو حوا يتكون صار له أفكار ميتة بين محكمة بكر أو كذلك 20 أو مثلا 20 بس أنا مش والله هذا المكان كلاته مركز مكان أو من عالم محمد يريد يركب يحمي ملحق مركز تلاحظ وقت قيشة صير يرجع حتى بس يقرأ كريم لا مركز يا رب قال لا دار توحيني عيالكم من النساء وحنا وحبه وقبان كرين wacyigelinta hadda aad tilmaamaysa aan la haynin iyo wadadeedaan la haynin adigana waa iska aamustay oo culimo ah oo aqoon u leh aniga waa iska aamusay intana mid waa aamustay kuwana dulmigii aan baraale ka nahayba haddii qabaa'iladaas aan nahay haddaan qabaa'iladaas aheenna wayba iska aamuseen oo awood male si aad sheegaysid marka waa inuu ilaahay noo caroodaa noo imaanayso oo dhibaato aan galno adigana aada faa'iidin anina faa'iidin kuwaasna faa'iidin marka sideen u wada faa'iidnaa waa inaan cadaalad aan kusoo noqonaa oo alla ka baqnaa soo maa سيستم كان يسمى الجفن يستعرض على مثلا هذا أو كذا صار قرار كاسية أو ما غيره شخصي يلا وأرنت وأرنت مثلا هواي مثلا أرنت قرار واي ما أنا الشخصي يلا وقف هذا الكرتمان وحاس صعيدين في رفق ومثلا وقت الفك يعطي في بعض مثلا نقارة مثلا من بحشه مثلا هواي قصة هواي أنا بهيها وأذكر عشانتها ما دام أنا مثلا أكثر من اتفاق فهين أو مثلا سيد كرسي أو مثلا كرسي أمير مثلا هوا قليل كاينة وكراسات كلية يحاول يسوي استخلاص في الميز غير ناس فينا كل لكن كل من يغضو مثل مسؤولية هذه لما يبنيها وأتكيس أولين يبجاري كريم أتكيس يبجاري ما أوكي كان أتكيس يبجاري أولا بجيني إلهي متقرن هو كان جيسا وتكون في رأي سبقون في مهمش مركا بدك الظلم هو اسكو أيها القبيلية غير أستوني هذا الحال يسأل مركا هذا الابدراء يقول هذا سيد عبد الله الدلم وحال يؤل شيء يعني مثلا انت تقولين السجر مكحل جيسا وحال يؤل سنين مشرح هاي هو علي سليمان ولا شيء محمد سليمان علي سليمان أما يؤل ستالي يلقى بالدين دور الشرف محمد سليمان لسا قالات أصلا ما زيد ما كان يؤلش بس ذات يعني كاسو موشح واحد اوكي استغفر الله غفكرت ورشاد الجيل بسبب حيوان ايش اللي حواي منطقه اللي حواي تقول حاجه سبب اللي فيها كرمه تقول حاجه سبب ايش اصلا هذه المقولة من هناك لك ما بعرف وحواي بتكون وين تنفط ولا مثلا انا وصف الشيء هنا وصل مثلا لا أعرف المبدأ نحاس ملاي واسموتا ملاي واسموتا باكرو صح والله يا ولد واسموتا برما واسموتا بكا في نحن لكن ليش وحاوي أروح كذا أريتاس وأروح كذا حواي من دولة كفرني yaa ka fariisanahe dadka dowladda aan leedahay waa kuwa oo corruptionka ku imaaday oo fadhi iyo istaag iyo jiif noo diiday cadaalad darrada noo diiday
haddaana shacabka soomaaliyeed aqoon-yahanka sidaadoo kaleeto iyo culummada iyo anybody else een arrintan ka hadlin oo ayaga la qasbin oo arrintan wax inay ka bedelaan lagu qasbin kuwaas inay waxa ku bedelaan ma u haysataan oo iska sugna walaalkay cabdiraxmaan ma jirtaa waxaa laga rabaa bulshada adiga haddaad kamid tahay aqoon-yahanka culamaa'idiinka waxgaradka haweenka laga rabaa inay arrintan iska warsadaan oo soo kariyaan arrintaan oo la wado dowladda laga gabo qolada daboolka arrintaan waa in la baaba'ayso qaabkan loo wajho mid waa olole siyaasadeyn laga galo olole siyaasadeyn baanta arrintaan ma arrin qofka lama wax kagala tahan ma ahan sababta waxaa waaye meel badan isku dayo meel baa shaksiyaan isku dayo shaksiyaalka waa muxuu yahay walaa dad doora isku tahay arrimaha haddaan kaa leerin isku dayay waa muxuu yaayeen waxay u baahan tahay marka si wada jira in arrintan loo wada qabto dalkaana jiil haddaan saa wax laga qaadan saan ku socon doonaa waa xalaalayn doontaa forbunta farda xalaal laga daysa waxay laga daysaa weli waxaan qabaa arrintan waa mataqaana arrin qaran waxaa waaye qaran kale dadka waa iskale arrimaha bulshada civil society culamaa'idiinka oo civil society xabbaa ku aruursan civil society waxa la isku keeno meeshaas ha laga amba qaado dowladdan arrintan la horgeeyo baarlamaha la horgeeyo iyo arrintan laga ololeeyo oo mataqaana wax laga saaro allah ku xafido ikar maxaa kusoo gabagabaynaynaa oo iska soo gabagabaynaynaa insha allah dad badanaa fariimo idiin soo diroohay sidoo xasan sheegay oo maarkano uu magaciisi muxuu ahaa uu sheegay cabdallah wuxuu yidhi dadaa wax kusoo qorqorayaan oo leeyihiin wixii wanaagsanna waxaa ogtiina umalaynaya nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iskuma madlin karna mana u dhowin waxaan ka hadlaya dad islaam aan lahay laakiin oo farciisa ah maxamed saadiq iyo maxamed amiina la dhahay maxamed amiin maxamed saadiq wax kastaba maasha allah cunug yaroo lasoo barbaariyo maasha allah u ahaa maalintii ilaahay xaqa kusoo ajaajin waa ogtiina umalaynaya waa lala dagaalamaya marka cabdallah waxaa u sheegaya wax allaal waxaa sheegaysa dad badanaa kaaga hor imaanaya wuxuu ii kar aniga ah iyo qof walba uu sheegaya wanaag ah marka laakiin horyaan ugu soconaynaa ayagana waa u duceynaynaa insha allah biidn illahi kariim waa kuu duceyna ii kar noo soo gabagabeey insha allah noo duceeye sheekh cabdallah noo duceeye ii kar maxaa ku darsanaysaa abo جدا سوماليا شأنية شأن علوسها قيمة كوريسا تنهض بناها عدالة لها لحتى وعدالة إن لها لو سوماليا عدالة هيكون يفتونوا بالملحوين أول نقضوا بالشيء تقول إن قرأ حنان نقضانا لكن نمط ودك الله كيما أنا ماشي سيبي إيطاليان كان نمط حتى الله كيما نمط دي hadda waxaa jira meel oo maxaa ku dhahaa deegaanka anaa ka imaaday waa walweyn iyo laagi iyo burweyn ayaa ka imaaday wax waa lawada goy waa inta kale burweyn iyo walweyn waxay usu jiraan 20 kilomitr baladoogl oo 500 oo askariya baladoogli joogto oo ciidamada harmacada baxa xabadda kaarbi ka hadday dhacdo burweyn waa maqlan burweyn magaalo ahayd oo qadiimada 7 meelahaas la dhisay ayadoo dhan haltaaska hal guri kama taagno midda kale ciidamaha meesha deganay waa u jeedeen waa ciidamo qaranaa luule mushaar ay qaataan canshuurtii dadka ay qaataan aydono waxa gubaano niman kale oo maxaa ku dhahaa sababta loo gubaano waxay ahayd dowladda taageersantihiin niman oo deegaankaas nin oo meesha lagu goowa ayaa jira oon aniga ka saaya allah naxariistee ninkaas wiilkiisa waxaa layidhi maxaan ku dhahaa ciidamada ka mid ah midaa hataa wuxuu jiraa meeshan buulaha walalahu aada wiilkiisa sida la sheegay oo ciidamada xaramcadow ka mid yahay wadigaas saasaa loo beriyay marka saas darteed marka waxaan wixii hataa oo madax laga dhiga hataa oo bal nin 10 kilomitr ka waran 10 kilomitr magaalo gubanaysa oo dib lagu shidaaya niman joogo oo technica haysta oo ciidamo dowladeed waa laleeyahay oo meesha maraykanka meeshuu deganaayo waayo oo loo jeedo oo la fiirsanaayo maxaa si u xisaabi maxaad ku xisaabi kartaa
ومجد الصومالي دولة الصومالي الحين وطابت السياح يجي بين هذا كل رسالة ما فيها صوب حيث waxaa cilisaan lakiin waxa waa kuurinay marka aniga waxa u haystay dadkaas mushaar ay qaataan bishii dhowr boqol qof walba u soo dhacda dhalinyaro askar waayaa lule ayaan waa baxeen leegay tageen ayaga laftikooda leega tagay leegada markay tageen dad waa macnaha niman oo qaan kaloo dhalinyarada kaloo duurka ku jirto dadka dhibaatayna ayagana meesha joogaan waa isxabadeen gabar naagaa ku dhimatay oo urug haysata oo ay dileen iyo dad kale oo shacab ay waa dileen dhinaca kalena xabaday kuwan kale soo furan kuwana xabada dadkii shacabka ahayd marka dadka shacabka hadda waxa loo cadaadinayo waxaa liigu sheegay inay tahay waxaad taageertiin dowladda taageertiin oo tirabteen in intaas oo dhiban أنا ما أكون مغلق ما نكان متكيس وكيد ما أكون صار بنا ما كان يفعل ما كان يسمى قاسي أبقى على إذا ما عندك صومال كنسا إذا ما أنكر معه لا إذا ما سياسة يصب إذا الترسيري لي هاي أنا من أوسع التوقع إذا ما دام الترسير الملك هذه يمكن هذا بيكون جراحي إذا كنا هذا الترسير لي بس إذا ما دام إذا ما سياسة يسوي إذا مثلا كان يدفعان أما بذكر مثلا ما يتقرب معهم بقصة لحاكم بريم كرتا الماغو أما والنمير بأس مثلا يقدروا من البيلوت أو تعودك شعب كل مدينة بعدين ممكن والله 8 كيلومتر وجفت 8 كيلومتر ضدك 8 كيلو هل ساعة على صلاة ضدك مقتل وسمعنا لو صلاة هل ساعة واقع لكن وحال كل شيء وحال كل كلام معهم وحال واحد السياسة والسن أفرت السنة وذكر وهذا مثلا بيقول ده بس يجوك هذا النساء إذا من ما وقرب مثلا حاول نقدر ما هو إذا نتذكر إنه تقال شيء بتجري الشارع أو حسب قبصانها